بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدوا أصحابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تليفوننا waa noo diyaar. jaanis waxaa ku haysatiin qof walba inaan 5 daqiiqo siinayo insha Allah. asxaabay soo dhawaada oo nagala soo qayb galay insha Allah. wixii muhiim ah qof walba ra'yigiisa insha Allah. taleefanka waa ku soo qoray kor uu ku qoran yahay. soo dhawaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم هدوا اوكي waa ku sheer gareysta ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكسي بلابنينا تليفونada diyaar waay ما شاء الله. waa ku soo qoray meeshaan ku soo qoray taleefanka ما شاء الله. ninkii raba inuu ugu la darsado ما شاء الله taleefanka ha qorto adhow waxa waay ما شاء الله. dadaa soo gala mar walba waxay dhahayaan aaw taleefanka intuu ku qoran yahay dhahan taleefanka maarta kor meesha profilekeyga aan ku soo qoro kor uu ku qoran yahay. marka haddaba ka qorta igu darsada whatsappka waa ka taleefanka intuu yaala si aan maaragtay idinkaga soo qabto. okay marka waa iska bilaabanaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. programkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinkii waa bateen. aad iyo aad ayaa loo gaajo qabaa dhinaca maxay ahayd howlo. calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. dhinacii hoggaan ayaan aad ugu baahi qabnaa. hogaamadii yaa naga kala maaragtay habowsan. hogaamadii ayaa naga kala habowsan. hogaamadii ayaa naga jiifa. hogaamadii ayaa ma aqaan waxay ku mashquulsan yihiin. waa su'aalo la isweydiiyo. dhibaatooyinkana waa ay bateen. marka dhibaatooyinka ay bataanna wax lala yaabo waay marka su'aalaha qaarkood. may maqlaysaan haddaa maqlaysaan iisoo qora. marka su'aalahan aan isweydiinayno waxay tahay aawey maxaa noo hoggaan ah. brobleynadii waa ay bateen. waa u jeediin hadda dhibaataa jirto. xamar ayadaaba iska jiro. cudurradiyaa tagayaa layiri waa maqasheen. waxay ahayd waqti in loo diyaar garoobo gacmaha inta la isqabsado cudurkan lala dagaalamo. laakiin ma aheen in la isku soo noqdo. ma aheen in maxay ahayd hoole dhufays la isku galo oo qof walbaba uu ku fakiro
suu qofka kale u dili lahaa ama uu kursiga uga qaadi lahaa ama uu ku noqon lahaa nin maaragtay meel sare tegay ayagoo ka fikiraya calooshooda ka fikiraya dhuuntooda oo macnaha wax ka dambeeyaba aanan jirin lambarka aniga macnaha kuma soo wici karo lambarkayga meeshuu ku qoraya qof walba meeshuu ku qoranaya ha igu darso kabacdi adiga maaragta ka shaqeey ani life aan ku jiray waqti uma haayo marka walaalayaal waxaa idiin sheegayaa dhibkiyaa batay dhibka batay waxay tahay mataqaanaa xafidullah madaxweyne mukhtaar roobo waa la xiray sanadkan hadda soo socdo aad maaragtay ku 2 sano aan noqonayso waa uu xiran yahay annaga wixii tabarteena waa dadaalnay waa soo istaagnay meediyaha waa soo galnay waa ka hadalnaa maalin kaste laakiin wax dhag jalaq noo siinayo male because annaga shicibkiyaa nahay waxaan u dadaalaynaa si annaga aan maaragtay aan u baraarujin lahayn dadkeennii siyaasadda ku jiro markaan leenahay annaga waxaan soo galnaa meediyaha macnaha dadaa waxay nagu tilmaamaan inaan wax hallayno joy 50-50 waayo ma fahanti wax ma hallaynayna ma dhahayno waxbaan toosinaynaana ma dhahayno laakiin waxa aan jecelnahay markay sheekada qaraaraato ay noqoto baraka maley waxaan jecelnahay markaas inaan dadkeennii shicibka ahay aan baraarujinno oo aan dhahno kaca gacmihiinna wax walba ku soo dhacsada dantaan ugu qasbayso because waxa waaye markaan aragnay waddankii inuu isku qasan yahay oo meel walbaba macnaha annaga aanan waxba ku lahayn oo meel walbaba markaan faragelino ama aan isdhahno allayleh meeshaan aan maxay ahayd toole waxaa laga yaabaa inaan maxay ahayd toole wax ka helno ama maaragtay in program ka hagaagsamaayo ama macnaha in wax u sheegno oo haddana wixii macnaha halaysmaayaanba oo sii hagaagayninba taas micnaheedu waxay tahay annaga wax ma hallaynana ma dhahay waxbaan toosinaana ma dhahay laakiin waxaan u badannahay 100% annagoo isfaaninaynin in haddaan annaga ahaan lahayn dhibaatada maanta ka taagan digli iyo mirif dhexdeeda ay ka sii dari lahayd haddaan annaga inta qofoodoo meediyaha aan ku jirno intaan soo istaagno aan qaylin lahayn dal iyo dibadba kuwii gacan ka shaqeeya faraha ka shaqeeya iyo kuwii maskax ka shaqeeya soo hadlo iyo kuwii live soo fariista iyo kuwii qoraba inta isugu jiraan intaasoo dhan waxaan annaga u fadhinaa oo aan maaragtay aan u qaylinaynaa inaan macnaha dadkeennii siyaasiyiinta aan dharbaaxno oo hadday hurdaanna hurdada aan ka kicinno hadday maxay ahayd toole malay maqlaahaan macnaha hadday siyaasiyiintayni hurdaanna aan hurdada ka kicinno hadday soo jeedaanna moor aan usii dharbaaxno si ay wax noogu qabtaan annaga ulajeedadeennu waa taas ma ahan ulajeedadeenna annaga inaan wax hallayno ma fahanteen inaan wax hallayno ma ahan aniga taa aaminsanahay taas waaye qof walbaba waxbuu aaminsan yahay hadda barabaleenaa ka dhacay daafeed barabaleen xoog lahaa ka dhacay barabaleenkii markuu dhacay guddoomiye waxaa la waday maxay ahayd toolisiidow ayaa la waday waa la shir qoole annagoo dhahaynaa bixin uu baxay shiraa lala yeeshtay micno male way sireen laakiin waxaa la yidhi waxaad shir u malaynayso khayrkuu ahaa jiro way sireen wuu baxay waa la waday maxay baladoogla laga ridi kabacdina baydhabaa la geeyey muxuma ha la geeyo waxaan aniga inta hadda su-aal ka weydiinayaa lafta gareenow guddoomiyihii waad xariisataye maxaad ka damacsan tahay guddoomiyihii waad wadataye guddoomiye siidow waad wadataye maanta ku 4 ku 5 miyaa ma aqaan baydhabuu joogaaye maxaa ka damacsan tahay sidee wax u wadaa ulajeedadaadu maxay tahay ma ogaan karnaa ma noo caddayn kartaa ilaa shibay shib ma anfacayso shibay shib annagoo tii la mashquulsan oo la dagaalayno oo tii aan annaga aan hawsheedu ku jirno ayaa haddana waxay ka furatay madaxweynaheennii xafidullah mukhtaar roobow in xalay dhibaato ay soo gaarto ee allaha u naxariistee oo wiilkii badbaadiyeyna uu ku dhintay ilaahay jannatulfirdowsi allaha ka waraabiyo oo caaw qabriga u hoyday allaha u naxariisto maskiinkaas borotogta gareeyey madaxweynaheenna ilaahay waxaan ka baryey intuu uu ka dhintayna inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo aan ilaahay oga baryaaya teeda labaad marka arrimahan waa isdul saariyin waxaan xirgo waayo xirgo la xirxiray waayo xirgaha markii la isku xirxiro si xun ay isugu xirxiran yihiinna sida loo furo way adag tahay dadka xirgahan isku xirxirayna waa idinka madaxdii waay siyaasiyiintii waay siyaasiyiinta idinkaa xirgihii isku xirxirteen
xirgahan la furfuri la'yahay idinkaa xirxirteen ma noo sheegi kartiin marka xirgahan oo idinka aad xirxirteen inaad furfurtiin ood aad u istaagtiin ilaan dad cilmi leh dad maskax leh oo kuraas noogu fadhiyaa tihiina 4.5 wax lagu qaybsadee annaga idinkaa wax idinka sugoonaaye ilaan waxa waaye meeshaan qabiil walbaba waxaa u kacay maxay ahayd toole ugaaskoodii waxaa u kacay xildhibaankoodii waxaa u kacay maxay ahayd toole hadday reer goboleed tahay madaxweynahoodii marka waxa aan la yaabanahay aniga idinkan bas miska saarantihiin kuraastii mise sanamyadii mise waxbaa soo wadiino oo maxay ahayd toole wixii ayaa idinku cuslaaday mise waxba nooma soo wadiino annaga isdabarna waaye shicib haddaan nahay iyo haddaan nahay taageerayaal oo u danqanayo shicibkaas maanta dhibaataysan dalka joogo hadday noqon lahayd muqdisho hadday noqon lahaydba digli mirif dhinacaas iyo ilaa iyo jubbada hoose shabeellada hoose oo dhibaataysan oo aan dhibkooda ka hadlayno ilaan dhibkii maanta haysto ayaga intay soo istaagaan ma sii dayn karaan waa kanaa hadda dhallinyaro masaakiimiin ayaa la xirxirayaa layidhi maxay galabsadeen waxaa maqan ugaaskii la afduubtay ilaa iyo hadda waa la la'ya hindha lama saarin ugaaskii waa naga maqan yahay qofaa isoo wacoy salaamu calaykum halow salaamu calaykum halow qaska daayaya hadalka iga kala goynina ugaaskii oo maxay ahayd toole ree walla weyn maxamed ibraahim rooble waa xiran yahee hadda war ma ka haysiin idinka qofkiyaa ku soo celiya haddana asalaamu calaykum السلام عليكم هلا والسلام عليكم هلو ها السلام عليكم كسعوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله شيء حليم يري إيدي لكين سلامي ورت حليم جيلاني أرو إيدي لكين سلامي سلام أنت أريكا أنا هذا واو أنو ولا لك هذا لو يدك مدبورها كواي ما شاء الله مركم كوريتا horta ay baan ka salaamay dhammaan umadweynta qoomiyadda Mailand meelol iyo dunida Afrika Kroon si walbiin deegan ka salaami salaamta islaamka ka salaami baad salaam eedan ku xuna aranta xalay dhiidi oo dil walban dhaamayn oo qorshiga la maleegi hogaamiyaha al-Sayyid Muxtaar oo Mansuur waa wal hadii uu raxweyn ee dhamaanka wada xanuunsadaan way hogaamiyaha kaliya oo geeg fiirsaani oo toosan hogaamiyaha way oo si cadaalad dare iyo maylaarayo jarar balmarsana mar hor laakiri haddana in qorshe lijay dad mooryaan oo meelo la qaaday oo darees oo dawladeedan gali oo darees iyo mooryaan la shani meelintii nang mas'uul il kor hir dadkaas ilaaliyaan maalan Allah gali qorisho furanya bataas iyo qalad inta adag soo soo qalad inta haddana xalay intii qorshe la hamaleegi meelo wala sameeyo horta waa ilaalay fal eedan kumaado way wal marnaba dhigaan roon way xalay ilaa iyo tan waa bahakani fadhiga bakani waa maylaaraay murubiyo email jeen waaysan ma faahne صح marka maylaaraay shacab weynaha reer Mailand way baq codsadee walaalayaal wal isiin la siin ka ariga wala dhiiglaan siin ka ariga way asan daayir aweesa dahirinya soo waliba maylaaraay muqtaro siyaasan horba maylaaraay walaal usul ku tuhmay iska dhaafi nankii hadda ilaa hadda abtunaaw dhagin ra'yigaas iyo يعني مبدأ الشباب ما آمن سن إلا هذا بريك جر نظام شيء كجر إنت هذا بيلوش وارد يعني إنت كروم بريك جر تلفون دي سايسو وريدي سايسو ديك نقولك ما قوم الله صح تنكلم عن شاكر هاي درا وصوف الدنبيات له قودي وصوت دجال له قودي دجال أوجه هاي والولد صوبيو دجال له ده قودي أم تلقى قودي لما برك بعد مرة جرو لهم قدبي مرة نيروبي لهم قدبي صح ومتكلم لما إلى رايز نشوف كي شو بلقوا قودي سلم ولا سمو ميلون جاي كيغان حالسن إلا إبراد كيغ سنكرنا حرية الاختار مرة بريجي ولا كتري لا أرى مرة حنون صدا وصلنا شيء مع نجرولوس كي حنون صدا عدنا ميلي لكسيحة كبهدلة عدنا ميلا رايس معنا الله قلي ميلا رايس وير إيو شرقول مليجو وإلهي مرول بعرقوا إلهي عدالة درد ميل كتير أرقوا شرقول البلاه إيو همليان إلهي غرسرموي أن حالها إيو همليان إلهي غرسرمي أن ولا لأن ميلا رايس هذا وركان يدير لان كيغ ميلا رايس على شركات قولك فشل من ولا عليه ميلك أمر يوصل إلهي نحر سلنا إلهي جنة فردوس حقرابي وأنا كلية هذا ما إلى رأيوس أليس منكم رجل رشيد قرانك بدلك أروي لكن كلية دتك ضمير لاوياش أنا شركة ملاقي إذا تكلم يلي أصلا وردي كهاين أسترهن
anka kaliya us ari waa inan kun mayla raayis inu mas'uulniyay may dilow ogaada mayla raayis samay weelo ani mayla raayis anoo nool madan li dhaafo nan kulli dinan kaliya shalay xalay ari hay ilaahay naarisalay amaan shacabka reer Mayland may bamarlamaad ima saddex codse in bari walaay ka damboy arintoon ka koobnan fadhanki walaas maay male laakiin mayla raayis barshinka dheeraysani oo la kuduhow arintoon kun maxkamada saaran dadku iyo macna mayla raayis haysan oo maxkamada saaran waa in hanin cadeen mayla raayis walaay haysan qodobka ingiriisi oo balka ka hubis hadda baad madu mayla raayis oo geegnankii mayla raayis geeg sanagdi barkisaadam lidile nan isweydiyo male magaalada hadii baddo ku jir waa xaaladii in faa'iideysan fadi waay marka shacab weynaha Mayland may baqoosday meelol biro in iyo fadhan kan waa bixilwaanada qaar Mayland raayis la gadadi mukdo waayeen geegnankii iigle helwaan abdi daktar waay usado helwaanada kale oo kursisho iyo danto fiiriyaan kursuun bari dhamaaday bari waa wala uskaliya hero waa waji iyo dadnimadii iyo Soomaalinimada iyo waxweynimadu waay dadkiin Mayland raayis iyo walaalkiin hortiin ay la dilnay iyo humisiga tageegisi iyo kursi ka fadhiya Mayland ay laare waraxweynta leeyma laareen daan kiisho bajirnay hal sana walba musin taro kursi iyo beesi walba musin taro sharafi azi iyo karaamana suwala oo duhwa meelol banan nilay meelol banan areemaynan kimba oo isin wal taraasan baanan kin oo hal sana ibar bala dambilaan meel cadaalad daran kirin leh fursada nan walba saasala ka ay geeg wallahi alool hum way wala dulqaado korme raxweyn meelol birood may ku codsadeen iyo fadhan oo nankaas oo dulmo iyo cadaalad darada in hirin niinbaahan geega waa nanki kaliya us ari inta ki milyan bees ee balan qaaday koy qaaday dadku ka dhaxba miilifaas deglaari shacabkay bees ma gado ari geeg qadiyadiis iyo dadnimadiis musi way oo geeg walaay Soomaaliya raayis beesi adduunyada iska qaraxaysa fadhi undaraadan diidi way oo geeg xabsa ka jiro oo marwalba sunan gorgorto mooy dirishay iyo marwalba yani fash walba walaas mooy way sax way may ku codsadee dhamaan shacab weynaha in iyo fadhan kahan onankaas dandanay meel iska jir silaanka diifadilaanka dadaal oo koob warta fadlan koreyta meelan jeedad oo saahiganto oo sheegiran oo meelan ka jeey mooriyaan kun kala meelol ka sheeno oo cadaawad min dhahaydo nafiil oo naaru waysin magac raahweyn bar waysin kala qaad kadibna gorgorta min kala galne silaanka diifadilaanka dadaal oo codsaday hadalkan kii dheeray eedeeda ma san walaayo aliim adiyo bay meelan ka sii wada marroos marbuus iyo jugta culus dhamaan meelan ka sii wada barnaamijyada insha Allah unan walaay baraarujin ay dhalinyaradan kulmi soobsan ururi jiran ururadaas Mayland raayis amni cadaalad la xiriiran oo bilaaheer barnaamijka meelan ka sii wada oo bilaaheer insha Allah isin barnaamijka meelan ka sii wada walaay daawada gudbiyaysan kulay community kulay isin la xiriirsan insha Allah ilaahay may bad kuwana mar walba nankaas madluumka ilaahay Mayland raayis am soo saay insha Allah isin boolin ka sii wada ilaahay garab kala meelin إن شاء الله بإذن الله الكريم جزاكم الله خيرها يا ريكانا ما شاء الله إن شاء الله أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا أن هذا الكيان سيوتي ما شاء الله ويل ولا الكيان وحوها أو ولا شيء جمهورية بركة Mayland أو ما عرفت يري معناها هدي وحسعون وين أنا قام ما عرفت أن ويستاجين يري مركا وحاربها مركا أنا بس أشهد وعن ويدينا يا هاي والله صوا دتكينا جاني سيوا هاي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله خير النهاردة ما شاء الله كسعوا الحمد لله وفي عنا كسعوا وأنا سعت مو برنامج إذا عنداودي كل الله الدواء يا ما يبغاها ما رأسه سومالك أموغا أنا هي ما مركزت ويدي سدانا حن كل بعد ظلم iyo duulan dareed kala mudno idaawada ilaahay may boohan afde no sii jeedi marka kulay bamay la raayay garlaha ay tahay garba la keen waay wala raayay dadayaan umati dooda fadeen dooda United oo kastakiyo ko dadku ilroonayti ma nagadanaha lamada idaareeyay sharkii kulmaan la shaqeeyay nagadan marka kulay إلهي واحد كاستك وانا قلاسه إلهي إذا وضع ما يبوها قلنتي من ناصريسي إلهي إذا وضع قلنتي يوم ما يبوها إذا وضع ما يبوها حوصا لك إلهي واحد كما يبوها أمط جسدك يونايت هاي دميركو وضع الله حوصك دنقل هايت إلهي ما يبوها انتاشي أمضاء وظلمان كليني بانتيو يونايت هاي دنقشيديو لندولن كهاينا إلهي واحد كما يبوها tan iyo hajeen wala
la dili dhimada doocale isfaraana insha allahu kulli walkale إن شاء الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته doocale isfaraana erlahayana dhul iyo ficil yala raayha ficilna may boohan dadkii saato ogal umad هلا misne wadankii rooga kan amiinka la hirahayo صح ha dhekadhegaaya ها كسعة umati shakhsiyaadkii mise may boohan dadkii roogay waa dareemay kan mishila kulbahayo kan kaleedkan may boohan lahan garash gareeyay ada si fudud may balkiin fahmaana falkii may boohan baasiraaj oo kale isla wareegidahay ilaahay waxaad kahay may weydiisadaan anti idaa u galantiyanin ku sareyne idaa ku galan sareyno kobtaani lutaan dhatiyo gala kii awood istaagan ilaahay awoodan saaxiib kii may boohan ubaga iyonayto idaa wanahanin rorina ilaahay may weydiisadaan bisifaatihi iyo waxumaahiba lutaan iyo kobtaan dhatiyo anti may boohan idaa wagala in awal humay boohan iyo gumaadkana ka taliyaasa iyonayto intii hata uma badna habiibto may boohan danoona ka sheegayna danglanko kale ka sheegayaasa ma ilaahay ku toganaha ani ilaahay garaaranagdooba lutaan hoostiya galaan ununaha ilaahay may boohan dulmo iyo dadulshay muudnooha su'una rabitaankana ilaahaynin weela ilaahay ku odsadaan insha allahu إن شاء الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريكان هاي وعليكم السلام ما شاء الله ويلكاس أسجن ما شاء الله ولا كان إن ما عرفت إن وكبر رجية معناه إن ما عرفت إن عن كعنه وعن ما عرفت إن براروجينا دتكي وحلا لا يابوا وحنا لا يابوا متقانني وحنا لا يابي سؤاله اسويدي بل ولا ليالو إذا كان سؤالها سيت هذا وسوق بسده بالك جوابه waxaan la yaabanahay dadkii anaga kuraasta noogu fadhiyey ayaga laftirkoodii maa la haystaa taasaan la yaabanaha ani oo mar walba isweydiiya ma ayagaa la haystaa oo maaragtay waxba qaban karin ma og yihiin raalli may ka yihiin ma nagu fiirsanooyaan mise xirgahan oo xirxiran iyaysay u furan la'yihiin intaasoo su-aaloodba ani waa isweydiinoya waayo waxaan maadaama la yidhi kursigan 4.5 lagu fadhiyaa waxaa la rabaa intii adi xukunkoodii haysay inta adiga mas'uulka ka aheed oo adi laguu dhiibay qofba meeluu xil saaran yahay waxaa la rabaa marka qof walbaba waxaa la rabaa meeshuu xukunkiisa asaga uu hayo inuu ka shaqeeyo dhibaato yar hadday soo gaarto at least hadduusan qaban karin 100% inuu 80% qabto waayo hadda cuduraa socdo waddamadan aa u jeedid dadkii xabsiyada ku xirnaa waa la soo daayay badankooda bannaankay joogaan waayo qofkan xabsiga ku jiro adiga responsibility kama naqan kartid qofka naftirkiisa wax usoo karinaayo ayaaba uu qabi karaaba cudurka qofkii kale oo u geynayo raashinku ku daaran karaa haddaysan ahayn qof macnaha oo daacad ahoo oo maxay ahayd oo lagu kalsoon yahay qofkaas inuu wax u karinaayo marka responsibilitygaas dadkaas haddii cudurka ku dhaco oo dhintaan ayaga maa qaadayo aniga ta aan la yaabanahay taas waay marka su-aashaana waxaan ku soo noqday hadda aan weydiiyey lafta gareenaan su-aasha weydinaa marka lafta gareenow wax la xirxiro wax weyn ma kordhinayaan wallaahi wax lasoo qabtoo la xirxiro wax weyn ma kordhinayaan hadda for example guddoomiyihii waa soo baxay agtaaduu jooga ilaa hadda warka ma hayno ma xiran yahay ma caafimaad qaba maxaa ka damacsan tahay meesha muxuu u joogaa see wax u wadaa siyaasaddaada see waaye sidee rabtaa inaa wax ka yeeshid ilaa hadda warka ma hayno ayadoo saas ay tahay markii asaga la watay ayaa dad la qaqabtay hadda ugaasaa maqan ugaaskii ilaa ay hadda waa la la'yahay ma dhinta ma nool yahay ma la oga ya ugaaskaas ma dhintay ma nool yahay ma la oga waa la la'yahay ugaaskaas daduu ka dhashtay saaka ugu dambaysa waa la isoo wacay ugaaskii lama helinaa la yidhahay ilaa ay hadda waa la la'yahay haye marka waxaa la rabaa inaad taar dirtid taleefon dirtid dadkii meesha ku soo duulay oo jooga meesha hadday qabsadaanna ugaaskan ay ku soo celiyaan gurigiisa mid waa taas tan labaadna waxaan leeyahay guddoomiyihii asaa meesha maamulayay dadka hadda loo dhiiboo la sheegayo xilka waa lagu wareejiye la sheegayo waa dad maqaarsaar ah dad maaragtay oo meesha xog badan u haayo inay wax ka qabtaan rabaan maba ahanba marka waxaan rabay in guddoomiyihii haddaadan xal deg deg ahoo
wax oo macnaha oo murajac oon jirin oo maaragta haddeertaan lagu magacaabay ama aad howlka gelinaysa ay jirin inaad guddoomiyaha ku soo celisid dadkiisa way u baahan yihiin laakiin shibay shib waay 5 برمية 4 برمية guddoomiyaha waa la la'ya agtaaduu joogaa siidow ilaa ay hadda warkiisa ma hayno haye markii ugu dambeysay waa isla joogteen waa dhaygii ugu dambeeyey waay waa isla joogteen waa isla qadayseen waa kaasa waa wariyahaba soo galo wuu sheegay laakiin wixii ka dambeeyey warkiisa ma hayno maxaa ka damacsan tahay inaad ku samaysid sidee wax u wadaa war halays ceshto war ani taasaan bala yaabanay haddii idinka isbaara la idiin haysto oo isbaara la idinku haayana soo sheega annaga markaas heeta shicib ahaan iyo maxay taageero ahaan waa is abaabulaynaa sidii markaas waxaan ku samaysan lahayn fallinkeedaan gelaynaa dabadeena bannaanka waa soo dhaha isa soo shacbixiya laakiin shibay shib wax ma anfacayso guddoomiyaha la qabta baydhabaa la geeyey ugaasaa la qabta waa maqanya haye dadkii ilaa hadda waxaa la yidhi isbaaradayaa laga celcelinayaa askarta meesha ilaalinaysa markay baxaan way imaanayaana la yidhi isbaaray dhiganayan askarta markay soo socoto duurkay galayaana la yidhi meesha weli shaqay ka wadaan dadkii dad sii baxay oo meesha ka tagay ma aha ilaa waxaa la yidhi mukulaal meeshay mac ugu barato ay macluul ugu baktisaa dadka isbaaray u barteen isbaara macaankeeday arkeen say u baxaan waa adag tahay geedkan jiradiisi cuslaaday sidii lagu gooyay waa adag tahay haye mukhtaar waa kaas waa xiran yahay ilaa iyo hadda asagana kiiskiisii meel ma korin hadda bulus waxaaba loogu sii darayba macnaha in oo weerar lagu qaado waaba la qaarijinaal maxaa ka faa'iidaysiin haddaa qaarijisiin maxaa ka faa'iidaysiin qof muslina dadkan waxaan sheegaa meesha intay soo galaan ilaahay ka cabso ya ilaahay ka cabso qof weynaa tahee dadka ha isku dirin dhiig ha gelin dhahaaye mukhtaar rooba waa xiran madaxweyneheenna ku xirane oo la raba in la dilee ninna maanta waa la dilay kaas dhiig mayno kuwaas gaala miya muslin mayno dhiig mayno maxay uga hadli laayihiin xuquuqda runta maxay uga hadli laayihiin ma rabaa inay ka hadlaan because dadka wax walaaqayay ku jiraan dadka wax halaynayay ku jiraan ma fahantay masaajidaa lagu soo hordhigaa ilaahayaa lagu soo hordhigaa ma fahantay marka wax lala yaabo waay ani marka waxaan la yaabanahay siyaasiyiinteeni waay waxa aan la yaabanahay waa siyaasiyiinteena asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye ku soco mala socota programka سفايلين مصابة والله لا يقوم بدكود كيف ما هنلاقي سديس من دادي هيتم برنامج هذا ما يبوها لما تي ما يبوها شيء كما هنلاقي لما ما يبوها والله هلا كديان ما يبوها شغل كحاي إيه كهما حدون أيام ضميرة ما يلين مركزي هو خرطورة صاد الشيخ ديو سلسلة ويكستي صح iskihirini ina shirqoolka sii socdalay tan xatuu laweenka sooti oo kale ugaaska la kihiriya jirta sii socdaan wala kale oo qarsano lahanba dhigayna ku diro sax waay markaan dadka ma aantii la meel fiiriyaan dadka una mesela hayno meel fidyan is aragaasan naftiyo sida un ulaaskani hay ulaasan hay hadii la fiiri markaan may waxa ولكن حاجة ما يتقول برشة مصحبة القرآن. صح. يعني حدي حضرانك لا أنا لك هذا صدق أو ما يبغى دكتور لك أوارس ده يلا يورا لك أوارس ده لكن ما يبغى ميلان أنت الشعب كده يرد ميجل كي بلانتان ما يبغى إيه نسكر بسلوم دل إدبيت فكرة الصبل الشيء شكلًا سلام هو بحفظي لكن ما هتريجا سكست ولا حلاية. ما يخاف لي كده اللي كان هو كتصل ما يوصل أكله والديه صح وأكيد وبديه مسكان كتير أنا أنت اللي كده لما أنت اللي شيء يسي لوين إلا غير إلا وين من ورث أدمه دكسي لكن أبود ما ينحايو كعاره أبود والحاي ميلو ولا قبل لا والكاستمر كل أبود لكن كانوا هنيجي ده نيبربوريه صح ما يسويدين ميلك جت أنت اللي سويدي أتاها يعني ميلان ما يبوس ولا إنجران لستوس ما يبوه ولا هم ما يبوه مهت كذا يسأرجع فاني ما يبوه حسدي وكان ما يلين لا تلك القصة دتلان الله لك السياسة ده ما يلين ما يبوه كزيادة في الوقت كور لقصار الله كثر اللي هي كان البركة كان الدبعة ولا فضي صح وبلسكي جيدا ها والله كتل ديو ولا ما يبغى ولا ليالو ما يبغى أشريس والمطرو أنت ما يبغى في إلا صوبي لس جرب سرمة لس تايرة هرب اللص قدافة
صديق ما يبغى دمتي أو أفيرن دمتي أنا أفيرنا مايلة هدون لأن أرنتك إيه عن كهونا لكن لمدينة مايلنا ولا كان إلهي نهار السجى رجع إلهي وعشان ولا لنا واسكي حتى اللي هري ميل ما يكشيكون أيوك ولا لا يا واسكي إلا عد ولا أفضوت ها ما ولا عنصر لكن كيك حد اللي هري ميل ما يكشيكون لفتك أساك مسؤولة وهي قدومية هوستي سكويستا قدومية هوش ماشي كودي وحكلا حليناي هوستي سكويستا إلا إيه هذا قرار مؤوسن سو صارن dadki yaa la qaqabanooya ma fahanti sifay waqti garan hela ku saaran wala meeli ka socdan hadii isku raasay may bolli jeeshidi ma aanti usafiri may ku faylaha may boo hatan dab ayati ka dab la ku firi laakiin badno may boo ha maga ko horay laakiin geekna wala barama noola marka ishabaara deerni ishabaaran walba ma taraw warta il sameynana dadka isin may bodad aan ah oo may boo social media ina ka jaro wal kasta la soo ban etina meeli qaabka dhalinyarada hogaamiyo le fadaas dhalinyarada meel aftiiniyo fadaas aynis aftiiniyo wali kun ay soo babaday wal dad makad gudahay wali inay gudahay صح والحجار بس يندور هاي جيك الضم فضان جيك لما مسؤول كلا أنتوا حق نفسنا مدير ده هاينا لما مشرق ولا هاينا ولا لما كي كانوا اللي يديك كذي واضح هوا بنت معها أنا لما كان أنا أي نطاق جرب كلا يديك كذي لا كان أسكت أنا ولا أسكت ولا والله علوة كان كدي لو كي كان أبى كدي لو كي كون أبى جرب كذا كتير سو كي كون هذا ميلا سورنته بالله عليكم سايس كنا خوي دان يروي ميجلي بلا ملكة شوق ده اسكتنا ذا ولا يكون بدلي لا ما يبغى ما يبغى كان حتى مثلاً مكفرها عمل حديين مش ما يبغى أنت مش أولي الحديين ما يجرب أنا مينا ما يبغى قلبي أنا محكي بس لكن أنا هنا أسبابنا واحد أنا هنا أسبابنا أو هجان كلا سبعي سنة واحد دي سانتا إيش كذا وعبس يسعني ها شاكد ميل اللي كبدل ما يلا ولا أنت نضمن ولا أنها شو المقترن نسبة فيها هي ولا نسبة فيها وكيد به مقترن أرنتش بما يبغى أي لاوي اللام كورنيو تنكل عايتين كدم بما يبغى كفكرنا سدي مركوكان ينقل قبضة فنا أرنتون ميل يكبدل يجوا صح ما شاء الله فكرة حانتي حتى لانك كلا أو ما يبغى لانك كاستمر كله قبضة مثل الدوده ما والله قبضي بس لما ما لما ما خاشب له كويرة الصوت بنا ورئيس جرب قبضي لكن تفكر اللي إنه ما يبغى أغلق ضدك وميد لون أطم إسميلي يعني أو ما يبغى يقوم بس أغلق علينا الضباب نموي كل ما أنا من كل في جانب أرجع ثاني أغلق ثم أنا غرفت فبقول حيث محاضرة القرآن مدته القرآن تنحي اللبانة إليكي داري ولا لا أنتم في اللبانة اسمين من القرآن أغلقه اسكودر كوي فدرالك كوي كونفور قلبت اسكودر معاكم عكواس اسكودر ما يقوى يعني حالكو فرق بين فدرالك لي بالجيل شديد أما إني سامسة إني كشفنا بس كل اللي سبحان الله يعني والأم يبوها في اللقشن هكشفني ميلس مكشان صوضايا يا ذا شكوى يعني كاري صحوة لكن حرونت الحاجة تجيك بيضاء وهدي ولا كسوبي الأرض حرونت وفي ما فدي أنا والسوبي هذا صحوة marka laskatana waxay labaanay may baabaydo ku ino arintan wala ku bedel madaxweynaha ta kul xaajadan wala barsho eeban iyo asaxi wazir kul hadalan gudoomiye baarlamaanka ka xadar wala barsho may sharaf darwa kursi geek iska dajin baro ku xalaas farmaajo baxdo khayran baxay way haday hadli karin hatta ana soo sheegan shakwa ana sheeg anaga ma hadli karnaa daan ma fahanti ha markaas anaga tashanayna dubay may bomelino noo jarba ka wareernish aqanti li wareeri ma مثلا أنا نرناها بما يبوها مريها ودي أرجع سامي سيد ورني مثلنا صح ما يبغى يصير إن شاء الله ما يبغى يدوم لما إن شاء الله نبغى نحط ما يبغى يتجه أنت ما يبغى من هالشيء اللي يكون قادر أنت ما يبغى شغلنا بدنا ما يبغى وقت اللي ما يبغى لنا إلا خير نصيب بدال لا يرد من الكسر لان كل ولكن لسه شغل ورني
إن شاء الله جيك الدنيا برن آخر واي بس مو بمطرس وحبا ما ترى يسلام حتى دماني بقول ميلك سيودا إن شاء الله دماني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريك أنا هاي السلام عليكم. وارن وعير وحلا اسكو داري كل حلبانada kuwii xagga koonfur galbeed ilaa iyo kulli isku gaan mid waayir waxa waaye in qaara soo hadla xilbaanada ma sha Allah khayr Allah siiya laakiin waxa la rabaa dadka shiray sameystaan meel ay tagaan way is abaabulaan at least inay isku imaadaan oo xataa something do something ya akhay saan ma anfacayso wax la xataa suubiya xataa wax been xataa na tusiya aan ku qanacno maba la idin arkooye ma dhimateen ma nooshihiin maxaan ka naqaanaa war meelay aad tagi jirteen fasax intaad ka soo qaadatiin warqadaha ka soo qaadatiin at least 4.5 kuraasta noogu fadhiisin intaad soo qaadatiin fasaxii aad soo qaadan jirteen soo qaata weligiinba fasaxa qaadan jirteene warqadaha la idiin qoro fariista at least soo hadla aan aragna markaas annaga inay xildhibaano noo maqan yihiin dad madaxa ay noo maqan yihiin oo ay noogu fadhiyaan kuraasta oo aan wax ka sugayno laakiin nyim shub xirgahaanayta isku xirxirteeno bir loo furaayo aanan lahayn haddaadan idinka furfuri karin oo idinka laftirkiini something wrong ay tahay at least noo caddeeya marka. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي ما لسعت برنامج. ولا عليه ولا سعدا إن رأيك كديبتان ربان. كديبة وحال لا يا وجاسكي لا يا وعرت أمرينا ماشي هاي صادقتي منيرة صادقت أنه سوشيال جراي وجاس محمد إبراهيم روبلو ولا لا يا ولا أفضل إلى هذا لأن نال إيجار لو معايو مدحوين محيها تولى مدحويني وعرت على دبعتوين كقبسدان محاكو صارت سدحات محيها تولى قدوميه محمد سيدو إلا هذا بيدم وكم قياي وحلا قال دمع سيها هنا أنا نور وهينين وإلا هذا الأخلاق على هنا شو بعيته كسعة اوكي واكو سلام حليمة جيلاني هرت لبا أرن حاليا كذا حتى منير برنامج كذا وجاسك يسيدو صح haddana waa ugu darsana wixii aniga aan ka maqlay laakiin arrinta hadda soo siyaartay ayaan rabaa inaan ku darsado mukhtaar aw mansuur horta mukhtaar aw mansuur aan u wada duceyno mar walba aan salaad tukadana waa u duceynaa ilaahay xafidaa ilaahay magobkiisa ku jira waqtigii ilaahay u qor iyo sababto ilaahay u qor unbaa maraaya mooyaane ilaahay aa magangelinaya mukhtaar qof kasta ha ogaad ilaahay subxaana wa tacaala abuurtay cirkii dhulka dhisay ee aadan ilaa abuurta xaabo uu abuuray ayaa hadda asaa ilaashanaya magantiisa ku jira taas toowa tan labaad sida hadda ka dhawaajisay waxaan silsilad waay okay dadka marka aan kala saarno hadda game waay waxaan horta koonfur galbeed waa ina ogaataa hurdada ka kacdaa maxaafid iyo maxaa la dhihi jiray iyo mucaaridba waa inay hurdada ka kacaan sabab waxaan game waay gamekaasna saddex shay ayuu ku xisaabsan ayuu salka ku haya mid waxa waaye waa dhul ballaarsi midna waxa waaye waa sidka bursi ma garatay midna waxa waaye dhaqaalo saddexdaas waay marka in la ogaadaa la rabaa in la fahmaa okay dad waxaa jirta marka oo yacni magacyo kala duwan sida mukhtaar rogow sheekh aw masuur ilaahay khayr hasiyo uu sheegay dad badan oo waagii siyaad bare allah u naxariista mataqaana uu dhintay ilaa ka baxay magaalada muqdisho ilaa ka maantadan ilmo ku dhalay joogay ku weynaaday ama 5 jir ahaa oo aan wax dawlad ahaba yaraatee iyo wax yacni nidaam uusan soo arkin mooryaannimo dil dhac qabiil iyo waxaas mooyaane aanan soo arkin aad ka buux marka sistamyo badan oo qaldan ayaa magaalada ka jirto sistamyadaasna waa adag tahay in mataqaanaa dadkii annaga oo mataqaan ogolba la dhibaateyn jiray masaakiinta iska ahaa xalaal quudata ahaa aan dembiga garanaynin in ay la macaabiloodaan waa adag tahay unless aan game cusub oo mataqaanaa oo dadka lagu fahmi kara aan la imaanin midaan u sheegaysa horta koonfur galbeed maanta laga bilaabo maxaafad iyo mucaarad dawlad iyo shicib iyo xildhibaano iyo malaaqyo koonfur galbeed waa inay isku higsataan
وإن ما لا دقا كان جاها هاي كان سان كان حاران كان قبيل كاس إن هرتلي صح وجماعة صدق ها إن قبسنا جيم كان مركان أنا عن سيدي أربني أنجرنا دين مركز توح معارض دين مركز توح حر دين مركز واحد دليل دين مركز واحد متقنا أبك يعني قعدت كتبه وسيد متقنا أو هاد وسمينا يو لبت جرينا وكل هذا لا ما بعرف هذا وحلو به جيم واي صح ماشي جيمك إنه جيم كسعدنا وحن كو عدينا ولا علي شيء كبدن ما فينا لكن وصوغا قابين عيا إن markii oo mataqaana la dhibaateeyay ee duulaan lagu soo qaaday ee hal sano uu karkarinayay amiin jeeso ina kala calad iyo ina aadan kala diray ay daafeed qaadeen ay ummadii halaageen ay u soo mamarsiyooneen qabiil meesha degan oo iyaga ka mid ah hataa aan raali ka ahayn dagaalka in la geliyo oo xildhibaano mataqaana iyo ka soo jeedo hataa ka hor imaaday la handaday la aamusiyey hawsha annagaa wadneen nooga dhex baxli yiri ayaa jirto marka dadkii holcaas bilaabay ee labada dhinac dadka mataqaana kala dhintay oo iyagana wax laga dilay oo iyagana wax dileen oo lagu soo duulay oo dadkan bilaabay amiin jeeso maanta banaankuu joogaa horta taasay dhiisay inay game ka socoto meesha صح amiin jeeso maanta banaankuu joogaa inay kala dir maanta banaankuu joogaa waxaa la soo dhodhoobay qofka soo dhodhoobay oo ku yimid waa dadkii qalalaasaha shalay kiciyey yaa soo diray waxa soo diray waa dadkii shalay qalalaasaha kiciyey ma aha dadka kale ee dad fiicana ku jira dawladda oo mataqaana aan rabin waxaan oo ka toobad keenay oo dawladnimo raba ayaa ku jirta marka iyaga si ku fila Soomaaliina qoladan loogu diray qalalaas lagu sameeyay qoladan kale ta masaakiintana lagu dulmaro la handado ayaa shaati lagu soo qastay shaatigaas waa shaati dawladeed marka aad indhahaaga muxuu qabanayaa wuxuu qabanaya kan mooryaanta inuu dhinacaas fila Soomaali ka soo baxay ee iyaga uu dabada ku wato oo mataqaana indhahaaga qabanaya marka game kaas waxa waa mindi laba dhinac ka afaysan waa inaad garataa marka waa inaad galka ka qabataa ayna ku sarin okay waxa la soo dhadhabo waa la soo noqday hadda ciidan danaba lagu diro oo magaalada la yar iyada nabad ka dhigaysa صح waaba joogaanba marka yihiin ciidanka danabka yaa soo amray koonfur galbeed ma soo amartay maya wasiirka arrimaha gudaha waa maqan yahay fayda waa ka maqan yahay ana runta ku sheegaa ma fahanti صح bimaha ninkii dhafalaqayn lahaa ee ciidan iyo hoola lagu jira la systemkii loo soo masaqana loo soo jeesan lahaaba jawaa ka hormadan iyaga ciidanay geesteen dadka dhaxgalnay dhahan laakiin duqooshinkii dadkii isdagaalay wili nabad kama dhigin laakiin waxay ku dhayn jidadka isbaaro lama dhiganayo weliba waxaan u jeeday hal dhinac in la tuugaayo oo la dhahayo okay qoladaas annaga wax soo waxaynan idinkana waxa idinka codsanaynaa laleeyahay dib ugu noqo dib u fiirsada ma garatay marka game waaye gamekan waxaa la rabaa koonfur galbeed inay dhac kala siiso ay kala furto horta ninkii dhimanayo nin kasta naf kastaba maalinay go-e yaan horta yani geeri yaan lagugu bootaynin waa lagu dilaa iyo anaga ma isku ka celi kartaan iyo maaha maanta dabajeexa iyo ka hadlaayeen maanta kaara u gadayna kaara mataqana kaara ya hoomiyaha oo dadka markii lagu sii hal mar hoomiya u gadayna geeda oo mataqana dadka oo gantaalaha rido gantaalaas u iibina reer koonfur galbeed nin kastoo beer qaba gantaalaas in beertiis hortiisa la dhiga waa runa idin sheega lama kama dawlad lama ko gobol lama maxad ku shicib lama ku odayaan inta taasan taagana sababtoo ah waxa waaye nima shartaada ka celi sharka ma celisan صح waay ma gartaa waa inaad kaga celina inta ina kuma hargudan laakiin shartan okay waxa ku soo haray marka sad bursiga lagu haya kuwaaga madaxda lagu haya sad bursiga handadaada lagu haya dul balaarsiya lagu haya hadda waxa siyaasiyiintooda dhan inta isku habar wacdeen ayay waxay rabaan gobolka shabeelle hoose in banaadir lagu daro waxayna ogeen banaadir inay ugu yaraan 8 gobol ee Maryland degan tahay 8 degmo inay Maryland ka degan tahay صح haddii la xisaabtamo laakiin anaga haddii qof mid inaga mid ah ama xildhibaan ah ama mas'uul ah uu soo sheegto gobolka banaadir waxa waaye adiga qalalaas wada kanoo raba al-shabaab oo keenayo maxaa isagoo nin xildhibaan oo baarlamaanka dhexdiisa joogo ayuu wuxuu ku yiri adiga al-shabaab tahay
maxaa u malaynaysaa marka nin maskiin ah oo meel iska jooga ama dukaan gadanaya maxaa u malaynaysaa sax waa marka taas ayaa lagugu shaabadaynaya hadda waxay taagan tahay new game new system inaan bilaawno systemkaasoo ah yacni u hiigsashay u socda iyaga yiri midna waa set midna waxa weeye waa gobolaysi midna waa dhaqaalo dhaqaalahaasoo ah dhaqaalaha dhan ka soo baxo ama dibadda loo dhoofiyo ama sisin haata ama moos haata ama waxa haata digri mirflas kale waa dhinac dhaqaalaha kulligoodna mooryaanimo iyo tuugnimo iyo qaacinimo ayay ku wada haystaan waa la wada xisaabtama beerahan ka kacala leeyahay ka kacala leeyahay ya sidii cabdiraxmaan yariisoo daraad maxaa lagu dila intaasoo jackpoint maxaa yaa u fuliday kuwa iyaga ka mid ah oo meesha ku jiro oo dowladnimada kula jiro ayaa waxaan dhan soo fududaynaya sababtoo ah yaan lagaa qaadin xilalkii iyo meelihii oo dowladda laheed yaan lagaa qaadin camal waay wax kale ma laakiin kuma xisaabtamaya inay wax walba uu dhammaad uu leeyahay everything wax walba dhammaad uu leeyahay marka hadda gameka aan bilaawayno digir iyo mirfle aan mataqaanaa u sheegaya waxaa waaye inaan mucaarad iyo muxaafid ilaa lama odayaal shacab wariyaal dowlad nooc kastaba inaan hoos u wada xiriirno inaan hal dhinac usoo jeesan dhinacaasoo ah inaan u baahana ina wadankeena meel walba la joogo inaan nabad ka siino maaha inaan qof faalino maaha hebelo waa fiican inaan dhahno maaha gobolkeena inaan anaga u taagana muqdisho xuquuqdeedaan ka rabnaa xildhibaano ka hadlaa inay yimaadaan aan rabaa muqdisho xuduudeedaan ka rabnaa okay maxaa ilmahaas meesha loo geey maxaa danab loo geey yaa ku shaqo leh ciidankaana ku shaqo leh nin allaala ninkii xildhibaan ah ee wax laga sheego inaad daafici kartid aa la rabaa oo aad dhigi kartid xildhibaankaas xaqa u leh sida idris daktar oo kaleeto ninkii wax ka sheega inaad dhahd ninkaasaan ku taageersana ninkaasaan hadalkiisa uu soo dhacay ayaan waxay hataa hadduu xun yahay mafad iyagaba waa saas fiiri meeqa yacni hadda u hiigashada markaan ku leeyahay oo sid bursiga hadda sanadaha soo socdo meeqa oo maxaad xisbiya ayaa waddanka jira kulligoodna yeeyihiin waa labada hal xaba xataa oo hadda aan leeyahay ama waxaa waaye daarood waa aan isleeyahay ma ku jirta inta kale waa reer isbaarooley annaga xisbiga oo amniga cadaalada ku jirta oo shalay cambaareeyey isla markii hadda waa tan mataqaanaa lasoo maleegayo mukhtaar rowo ya xisbiga amniga cadaala ayaa shir qabta uu leeyahay waan cambaaraynayaa falka ku dhacday koonfur galbeed waxaway waa in hooshoodii mataqaanaa si degdeg wax loogu qabto halkaas xisbiga ku jiro wax digri miriflaa aawo xisbiyadii kale waa inay bataan waa inay isku tagaan waa inay u hiigashada iyo mataqaanaa maxaa la dhihi jiray iyo sidkan la bursanaayo waa inay qayb ka qaataan waay ya mideeda kaleetana waxaan soo arkayay wiil ka tirsan xasan cali khayre qaybtiisii ah wax hadda wiilkan loo xibsaarayo oo xalaba loo soo abaabulay ayuu maalintii daafeed ka dhacay ayuu media intuu soo fadhiistay wuxuu reer isbaaroy waxaa wadiin joojiya raxween waa ka gardaran tihiin reer daafeed reer shancabta calameed waa ka gardaran tihiin mar alaala markuu yimid isla wiil markan hadda aan raadi wiilkii media ka hadlayay saan u cambaareynay dilib lab ka mid ah waa wiilka hadda wax waa dililey allah u naxariistay naxariista wiilka dhintay ilaahay subxaan xaqa gacan diraa dishay marka dadkan waxaaba wiilkan xataa waxaa la leeyahay yaa ku soo diray hebel ay soo diray fahad yaasiin ay soo diray dheh markii lagu dhaho farmaajo ay soo diray dheh era ay soo diray dheh yacni dad kale ayuu madax u saarnaya laakiin boogta meel kale ka quransantahay meeshaas ka quransantahay ilaa boogtaas la bujiyo oo dhacaanka laga deeyo ma istaagayso yaabay marka how we get it marka sideen aan ku arki karnaa in mataqaana la isqabsado odayaasheena waxayna dhan inay shir degdega samaystaan war maxaa odayaasheena laba bilood ayaan dhexdeed orordeen haddana waa aamuseen hadday odayaasheena shir samaystaan oo xildhibaanadan shir samaystaan oo kii dowladda annaga mataqaana ku jirta koonfur galbeed uu mataqaana banaankiisa soo dhigo dadka waxooda waa dhammaana waa lagu wartana waa lagu dida waa la waxayna laakiin waa in daba taagnaataa inaadan mataqaana adiga hadda caranin waa inaad attack samaysaa attack wax la dhahay defense ma jirto hadda waa ka baxnay anaga hadda inaad attack u samaysatid magaaladaada iyo gobolkaaga inaad attack u samaysatid soo markaas inta hadda iyagaa markaas difaac galaayo laakiin hadda aday ku cunooyeen aday ku ugaarsanooyin
waa hantin waay adaa lagu gaarsanaa adaa lagu hanta garaynaya marka hantigan waa inaan joojinaa marka waa lagu gaarsanaya si aan lagu gaarsanin waa inaan joojinaa wax ugaarso marka wax soo dhacso gobolkaaga soo dhacso gobolka banaadir soo dhacso xuquuqdiisa soo dhacso gobolka shabeellaha xuquuqda xuduudeeda soo dhacso ninkii kaa xiran xuduud yani xuquuqdiisa soo dhacso hadal hoteelka ka hadal maxaa dhacay yaga fata xunta hadda iyaga hiiraanaad wallahi aad mataqaanaa waxaa xildhibaan inuu horta waa ina anaga helnaa dad af miishaara naguma jiro waa ina helnaa dad af miishaara tan aan aniga dhahayo maahan oo hadda yaa wixii soo dhicinaya hadday dadkii madaxda kuraasta noogu fadhiiba aamusan yihiin yaa wax soo dhicinaya oo xirgii ay xirxireen ee iyaga furila yihiin waa inaan ka hadalnaa hadal keliya wax mataraya ficila loo baahan yahay waa inaan baraarujinaa waa inaan helnaa dad qori ismaris ah waa inaan helnaa dad mooryaannimo u hadlo waa inaan helnaa dad xuquuqdan raadina maalin kasta xuquuqdan saanaan yeela maaha dad qoryo ismarisa ee indhaha shanta ka gala qofka hadda mataqaana xildhibaanka hadda daraadayta oo mas-uulka ahaa indhahan kugu dhufana isla markii waxaa la rabay in media soo istaago xuquuqdan ku leena aaw xuquuqdeena gobolka banaadir in la waa in la dhahaa maxaa gobolkeen hiiraan intaasoo qofooda noo degana aaw hiiraan qaybteen waa in la dhahaa marka dadka oo waxaa la rabaa qoryo ismaris in la helo dad qoryo ismarisa waa ina adkaak la sameeya ma ahane maxaa dhihi jira hantina lagugu suubana defense atala waa qoraysaa carada ma jirto waa ina hogaataa alaa kuli hadalkiyaana ku badanin waxaan rabaa maxaafad iyo mucaarad inta u dhexayso mataqaana in annaga dhexdeena la joojiyo waa ay maqlaayaan xildhibaanada siyaasiyiinta wasiirarka maxaa la dhihi jira nooc kasta ay ahaataba ha la joojiyo ilmahan yaryarka ee mataqaana facebookyada mase banaan wax soo gashanay wax nooma aha gadaal u dhigo yacni hortaan soo istaag hortaan shaqo kala noo taale shaqada markaan qabsano markaas adi waxaa doonti samee ama ku dhaqaaq mafahanti laakiin shaqada naga soo garab gal xisbiga amniga cadaala idinkana istaaga shalay waa istaagteen is uruursada dhalinyaro badan hala uruursado hala istaago halana taageero ya hala taageero xildhibaan maxaa dhihi jira malaaqan hadda xiran yahan laazuman meel alla meel ku dambeeya waa la hela meel ku dambeeya waa la helaya insha allah haddii ilaa waana gobolka shabeellaha hoosena waa loo soo socda qorshiisna waa lagu jira insha allah haddii ilaa laakiin hala qabsado odayaalka yee cabsani weliba odayaasha habeenkii maqarka markii la gaaro quraan ha aqriyaan quraan ha aqriyaan faataha ha aqristaan inuu ilaahay ka xijaabo insha allah ayaba assalaamu calaykum waraxmatullahi waa maadsantahay badan haya xabiibti assalaamu calaykum qof kalaan siinaya maasha allah sifaaye ahayd oo maaragtay ka qayb qaadanaysay ra'yigeeda maasha allah waxaan inta u fadhinaba waa taas ilan waa yaabanahay afkiibaa juqda gabaydiyaan joognaa السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام horta gabadhii hadda hadlaysaa taageersana maasha allah tabaaraka aniga waxaan kasoo jeedaa shacabka reer muqdisho runtii fikradeeda aad iyo aad u taageersanahay ani waxaa ogolaan lahaa beeshiina inay horumar gaarto inaan isdhex galno gobolka banaadir inaan la qaybsatiin in dad walaalo oo raximo ehel oo meel wada degaanahay sababta tahay xaq darro waay abu mansuur in la xiro oo mataqaanaa fa'ad yaasiin fila soomaaliya kobajino ku cabo sheekh shariif u bootay habeenii maalin oo madaxda soo weeraro ama mataqaanaa ninkan zakariya mareexaane mataqaanaa xaafadda yaaqshiid iyo holwadaa ka sameeyo si kale haddaan u dhigo aniga beesha mudulooda ahay mana ka yeeli doono waxaan raadinaynaa international communityga xushmeena farmaajo maalinla isku saari lahayd daqiiqado sababta tahayna fa'ad yaasiin qadar oo ku cararaya beri xukunka markuu ka tago annaga marka waxaa doonaynaa insha allahu tacala hadduu ilaahay ka dhigo beesha raxaweyn inay gabadha say sheegteen aa walaalo noqotiin aa isku tashatiin waxay rabaan in annaga idinka aan dagaalna muqdisho isku dagaalno isku mana dagaalayna dad waxaan nahay mataqaanaa hela raxima walaala dagaal sokeeyana annaga mataqaanaa inay isku horgeeyaan ma rabaan maalin hore waxaa dhacday askarta ugu badan ay soo dhigeen xaafadda sheekh shariif waxay rabeen mataqaanaa inay dhahaan askarta waxaa ku jirta beesha mataqaanaa raxaweyn oo sheekh shariif weerarays waa beentood
wiil yar yar oo mareexaan oo gada laga keeno waaye mana awoodaan sheekh shariif inay caasimadda muqdisho kula dagaalaan marka ani taas kasoo gudbo Abu Mansuur waxbana ma sameyn 100 dambiilo Abu Mansuur ka darna xamar ku sugan oo mataqan oo dhiig muslim galeen oo shacabkooda laayeen oo mataqana waxa kamid ah mataqana guddood qabiil aan dib gelin ma jiro marka kaligiis maxaa loo beegsanayo maxaa kaligiis loo weeraraya marka farmaajo wuxuu ka baqa hadduu Abu Mansuur banaanka soo baxo in mataqana afgambi ka dhacayo asaga mataqana beeshada haween ee weerarayso oo asaga marka wuxuu isleeyahay ku sii hay hadda programka loo keenay wuxuu dhahay madaxweynaha koonfur galbeed $5 milyan ugu talagalay oo beeraha iyo inuu mataqana galeyda iyo masagada iyo America iyo Nation waxay ogtaa dhulka kaliya ee beeraha kasoo bixi kara beeraha inay marka dadku wuxuu ku seexinayaa koonfur galbeed wuxuu ku seexinaa baaqi international keentay oo asaga wuxuu iska dhigay inuu gacantiisa keeno madaxweynaha qaranka ani marka waxa oran lahaa khayrana mataqana waa jaajuus oo mataqana beesha haweenama ma matala anaga waa dayuus waxaana ma matalo waxaana matalan ma jirto 4.5 man annaga waxaana matalo mataqana madaxdeena iyo maamadeena iyo ehelkeena na matalo aniga runtii personally Sheekh Shariif iyo Sheekh Xasan taageerahooda ah mid marka laga soo wareero beesha raxweyn walaalaheena waa dagaalkiina ma rabno isku mid noqdo gabadha soo noqotay waxbarashada u soo jeesta la xisaabtama dawladda oo ninkan baarlamaanka fadhiyo kaligiis waa beentiisa wax ma qabanayo wax badan oo qaban kara ninkan wuu soo dayn karaa international community wala fariisan kara wuxuu oran karaa nimankii wadanka xasuuqay faadiyasiina wadanka xasuuqay oo waxa rabtid oo mataqana ayaa halkan jooga mid labaad walaashii waxa rabaa inaan kugu daro faadshun kala gobolada ka dagaalamay nin ma jarteen waa maxaa loo soo qaban waa faadshun mataqana ilib iyo jamaam way ka saareen mataqana qoryooliyo ku dhuumanaya maxuu soo qaban Ahmed Madow maxaa loo soo qaban waa oo dhiig muslim Ahmed Madow maxaa loo soo qaban waa xisbi islaam ka dagaalam beentiisa waa farmaajo qaraabadiisa waaye maalin walba ku cararaya waa soo qabanaya international ka dhacdhacsiya sababtooda tahay Ahmed Madow iyo farmaajo iyo dan maxaa la madaxweynaha Puntland waxa saddex nin oo walaalaha hoose iskala shaqeeya fahmi anaga marka ruwaayadaas inay noo dhigaan maahan hoos waa kala socno anaga ruwaayadaas waxa jambalkan waxay rabaan anaga idinkina isku baaqaan anaga keena isbaarada badan oo iska qaban karnaa beesha raxweyn iska qaban kartaa beesha raxweyn magaalada muqdisho way nala leedahay gobolka banaadir waa nala leedahay waa ku noolaan karnaa saa u noolaan jirnay waa soo noolaan jirnay mataqana waxa ah ra'iisul baarlamaan Xasan Sheekh markuu joogay Jawaari ahaa dad walaalo raxmo isla deganaana isma dagaali jir hadan isma dagaaleen fahmino waxa isku dagaal qalad waa waxa anaga idinka isku dagaal waxa anaga idinka iska hor imaana qalad waa waxa isku heesan ma jiro marka siyaasadda iyana iska ka hor keenin ana marka waxa la taageerina kamid ahay gobolnimo iyo guud horumar gaara barwaaqo gaara isku xirnaada si gabadha sameysay ma laga yaab nin muduloodan inuu niigaf oo nicaayo oo mataqana intuu social media soo fariisto ama xamar soo fariisto dad waxa sababta waxa isku imaanaba waa qalad waxa xaqeen u dooday anaga xaqeena u dooday anaga qaladka ugu weyn aan sameynay xukunkan waxa tahay Xasan Sheekh inuu ka degto maba ahayn absolutely waxa sideen nin walaalkiina waaye oo mataqana daaradii hawi waa laga soo gudbay ninkan dalka soo bixina 38 safaaradood oo Soomaaliya wada mareexan iyo daarado xaq ma jiro marka subhanallah waxa ku tusaa safaaradda Abu Dhabi nin ma jartana fadhiyo safaaradda Uganda nin mareexana fadhiyo safaaradda Saudi Arabia nin mareexana fadhiyo Sudan nin ogaadena fadhiyo Qatar nin ogaadena fadhiyo maxaa la dhahaa India nin waxa fadhiyo mataqana dhulbaanta qabiilada dhan wuxuu ka wada dhigay safaaradda dhan wuxuu ka wada dhigay qabiilkiisa ka wada Belgium wuxuu keensaday nin kale hadda keensaday safaaradda Switzerland gabar kale wuxuu keensaday adeer u yahay madaxweynaha xaq ka hadlay alisnahay madaxweyne cadaalad waa Allah tacdiilay wallahi xaq ma jiray in waxa waaye ma aragtay marka ninkan waa ku qasaarnay annaga xataa waxa sideen beeshan hawiyo waxa sideen qayr markuu imaado maadaama nin oo mursado oo walaalkiina yahay cadaalad buu sameyn doonaa oo xaq darro mataqaan oo ka qaban doonaa beesha mursado waxayba naga raacday mareexaanay naga raacday dadka ehelka asla ahayn oo qaraabada asla ahayn oo walaalaha asla ahayn oo sunna wal jamaa asla ahayn oo muqdisho asla degneen waxay nooga ehdeen gacmihii waxay nooga qabteen nimanka mareexaanka nooga qabteen caasimadda muqdisho laakiin beri iyaga problem ku soo noqonay waa kaga badannahay waa kaga caasimadda waa kaga soo sameysanahay waa kaga xoog badannahay waa ka hub badannahay laakiin beri iyaga qabsanaysa international community ga ogta kursiga in anaga iska leenahay mar walba anaga meeshan walba qeybta saalixiid una laakiin iyaga baaba'ay beri sababta hub iskaga celiya ma qabo muusasoodii iyo mataqana madaxdeen anaga oo meel fiican la geeyo abaanduulaha qabno oo amniga qabno oo airportka haysan weli kuma faraxsan sababta xukunka anaga ka sareeya si rabno mataqana farmaajo inuu anaga nagu sii seexiyo ma rabno mataqana beela iyo mataqana madaxdeen iyo beeg soo Sheekh Shariif u qadsan kara soo Sheekh Shariif gurigiisa u weerari kara soo Sheekh Shariif diyaarad uga celin kara
annaga marka waxaa dhooraynaa walaasheeda been markaa qarinayna waa wada fariisanay London waa ku shirnay Streatham waxa annaga aan dhooraynaa international community-ga sababta taa waxay tahay bidi marabna inaan dhaho beesha hawiya naga bixisa magaalada Muqdisho 91 problem ka dhacay hadda dhacay marabna si laakiin buugi qalin uga saarayna markuu ugu horeyso hore waqtigiis ha dhamaysto Faad Yaasin hadduu Faad Yaasin beesha muddo loo taabto xaafada qaxda waa loo xaafada maadaqana Madiina waa loo kala qaxaya hal nin oo shaqaale ma ku noolaanay asaga xataa waa okay hadda sheekada waliba bando waa lagu jiraa hadda ka daran tahay qatar bandogan ma hanba Faad Yaasin waxa dhibkooda dhan riwaayada waxa wada Faad Yaasin annaga waa naga carraa waxa ma ka qarineen sababta taa maalintu annagana soo doonto caasimada Muqdisho ma ku noolaana aadan cadda airport ma ka carraa qadarna ma aaday nin walba oo shaqaale caasimada Muqdisho ku nool waa beegsanayna boqolkiiba boqol waa shir ka fiirsanaa yaradkooda caqligooda cilmigooda sababta tahay Sheekh Shariif ninka naga taabta ama Sheekh Shariif ninka loo adeegsada aakhira u direen wax kala baqayna ma jirto sababta tahay idinka nii saara beesha raxaween walaala noqda isku xirnaa lacag nationka nii sameynayo wada fariista waxa ku dhahdeen annaga waxa u baahanaa reer galbeedka beera inaan falano annaga waxa u baahanaa cagaf annaga waxa u baahanaa NGO-yaashan galeedaan dhacday noo keenay muu baanin NGO-yaasha dhan ka xira xerooyin qaxooti bay dhaba iyo baayin uma wada baanan dhulka soo saarka lahaa oo barwaaqad marka la see mataqaanaa cunu cadaan intuu kusoo degto oo galey ugu geyn karaa maalin walba oo mataqaanaa ula fariisan karaa madaxweynaha goobta uma baanin Ethiopiankana joogaan xuduudkooda ha joogaan sababta siyaasad kale ku sheega Mareykanka baladogle ciidamada ugu badan oo ku tababaraya waa beeshiin Ingiriiska ciidamada badan oo ku tababaraya beeshiin berri waxa la ogyahay mustaqbalkiina wadankan idinka aska leeyihiin marka reer galbeedka way nagu soo kala cararayaan hadda laakiin waxa la rabaa inaad dhaadin marka ugu horeyso annaga waxa u baahannahay mataqaanaa hub marka ugu horeyso waxa u baahannahay annaga cagaf marka ugu horeyso booyada u baahannahay Turkish inaan la fariisatiin dhaqaalaha ugu badan Soomaaliya wadanka gobolkiina soo saari karo adduunkan waxa lagu tartamaya dhaqaalaha lagu tartamaya maanta dad lagu ma tartamayo sababta tahay dhaqaalaha ugu badan dadka marka waxa u baahan tahay madaxweynaha koonfur galbeed hadduu caqli leeyahay oo nin cilmi leeyahay dadkiisa booyada horta ha u soo gado kow ha u soo gado mataqaanaa cagaf ha u soo gado mataqaanaa mashiinadan technology-ga oo soo saaraya saddexdii bilood soo saaraya intaas oo biyo ay soo saaraya dhulka beeraleyda ah mataqaanaa ha la heshiiye maxaa la Jowhar iyo Hiiraan xuduudadahaas ku wada furo technology-giisa ha sameeyo dadkiisa gacanta ha u soo qadiyo ku mashquul ra'iisul baarlamaan inuu la fariisto farmaajo ku dhaho qol hatu burhanakum aniga ra'iisul baarlamaan ahay dadkayga waxa ugu tala gashay halkan soo dhig odagan beelay inuu dadka qayaamo ma wasiirka maaliyadda carruurtiisana geesto Tanzania gabadhiisa Tanzania joogta xaaraanta balfiri mataqaana gabadhii hore oo Fawziya la iyadana mataqaana carruurteeda Tanzania isku dagaalayso safaar Tanzania marka walaal oo salaamayay salaamu ra'yigaaga fiican jazaakumullah khayr alayhi guul iyo gobonimo insha Allah guul hay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka waa kaasaay walaalayaal oo gacmaha isqabsada wiilkaas ra'yigiisana waa kaas maasha Allah ra'yi fiican sorry kaamiradiin daaramay ra'yi fiican oo nagu soo kordhiyay maasha Allah marka waa kaasa waxa meesha ku harsan anaga waaye digili mirfo gacmaha isqabsada ilaa iyo maaragtay shabeellada hoose gacmaha isqabsada istaaga dad gacmaha isqabsada noqda dadkan siyaasiyiinteena dhex noo qaban waayaan xataa anaga aan noqono dad maaragtay kuwan dibadda joogana anaga aan nahayna inaan meeshan dacwo ka wadno dadka gudaha joogana dee hawshii sidii loogu talagalay ay u qabtaan iyagana salaamu calaykum السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام هايكم السلام وعليكم السلام barnaamijka dooda waxaan u malaynayaa Robo iyo nimankii kale oo u malaynayaa ama sidan Robo barbaleenkii xal ku dhacay iyo ugaasa naga maqan oo daafeed laga afduubtay oo ilaa hadda aanan meel ku sheegin horta xariga ugaaska oo cambaaraynaya oday dhaqameed waxa weeye waa bulshada iyo nabadda ma garatay sax dadka horseedku waa in oday dhaqameedka lagu xadgudbo waa xaraam waana dembi cad marka ciddii falkaa ka dambeysay waa inay si degdeg ah odayga ay u soo daysaa xorriyadiisa ugu soo celiyaan marka arrinta kale oo Robo ani waa ka fikir duwanahay dadka kale haye midaan kaga fikir duwanahay waxay tahay Robo iyo Sheekh Shariif iyo muxuu ahaa Axmed Madoobe waa isku dembi ma garatay godona dadkaas in la sii daayo ay madaxweynayaal noqdaan oo ninkaana la xiro taas oo cambaaraynaya iyo in godona la dila marka waxaan aaminsanahay inay isku dembi ahaayeen si isku mid ah dembiga loogu qaado maadaama ay dembi ka wada galeen ummadda Soomaaliyeed haddii kalena ha la wada deeyo waa sida fikirkeygu waa intaa صح وما شاء الله
marka dadkan waxyaabaha isku qaldaaya waa inay arrinka dib ugu laabtaan oo lasoo saxo la dhaawaran sheekh shariifba 30 kun oo caruur ku laayay iidaalo uu dagaal geliyey kanna hadduu dadka laayay roobow waa same dembi waa isku mid marka ah si cadaaladda loo helay iyo nabad axmed madoobe intoodiba ha la soo saara maxkamad sax waa marka annaga waxaan kasoo jeednaa la dhaay ya haddii kale macnaha isku miisaan ha noqdaan macnaha inta roobow la xiro dadkii kalena ay bannaanka joogaan dee waa khalad madaxweyneyaal laga dhigaan intaa waan diidanaa anigu haa waa kuwa waa bontigeyga waa intaas aniga haa sax waay maasha dadki inay fahmaan waay dadkan oo dhan waa isku dembi ha la soo wada saara maxkamad ama ha la wada daayo waa inta war fiican waay maasha allah asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waxmatullahi wabarakaatu haa maasha allah waa runtiisa macnaha wuxuu yiri dadka ama ha la wada fiiriyo dhaha miisaanka xaqa ha la wada fiiriyo ama ha la iska wada daayo sax waaye macnaha dadna qaarna inay madax noqdaan qaarna laakiin aniga wallahi mid aan aaminsanahay waxay tahay annaga uun baa maaragtay xoogaana lagu taagsanayaa maahane dadka kale maaragtay dee maxay ahayd toolasaday rabaan iyo meeshay rabaan ay biyaha ka cabooyaan taasna waa waxaan aad ugu xumahay mana ahan mid dadka kalena yeeleen taasna waa mida annaga is yeelnay because ishiisa laga arkaa la yiri ushiisaa lagu tuma ani taasaan aaminsanahay waayo annaga dhinaceena haddaan ka adkeyn lahayn doonta nalama aysan gadoonteen laakiin doonta ayaa dhinaceena ka jilicsan taasoo ah dhinaca siyaasiyiinteenna hadday adkaan lahayd doonta dhinaceena ka adkaan lahayd oo wax walboo imaadaba ay naga barotagta garayn lahaayeen maanta dhibaatadan nama qabsan lahayn laakiin dhibkaan maantana haysta waxay tahay doonta ayay nagu jilciyeen kadibna doonta inay badda nagula gambisanto waan ku qasbannahay dadkii miiska noo tumi lahaa oo miiska soo fariisan lahaa oo noo hadli lahaa oo garta noo goyn lahaaba waa inaga aamusan yihiin marka annaga dadkii shicibka waa dad la xukumo waay masaakiimiin waay because mas-uulka annagaa kuwa haynaa lagu yiri shicib wax ma qaban karo shicib inuu mudaharaado uu qayliyo maahan wax ma qaban karo laakiin yaa wax qaban karo ninka mas-uuliyadda kuwa haayo waay ninka xasaanaadka garbiisa saaran yihiin waay ninkii kulligood inta la wada safay kutubyo loo dhiiba la yiri ku dhaarta inaad dadkiinii iyo masaakiinta iyo duqooshinka iyo waayeelada iyo carruurta iyo hooyooyinka aad wax u qabanaysiin oo weliba iska dhaafee lacagta jeebkiina ku jirta xataa aa ugu daraysiin tii intaa laga waayey ayaa weliba maxay ahayd toole la abiyuus garaynooya oo si la raba laga yeelanooya taasna aadaa uga xumaya wallahi asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waa fiicanahay ku socon walaal horta dooda waxaan u malaynayaa mukhtarow maanta dhibaatadii macnaha ku dhex rabtay inaad ka hadlaan u malaynayaa soo ma iyo maxay ahayd toole ugaasna laga afduubtay oo daafeeda oo ilaa hadda la la'ya horta mukhtarow macnaha xirigiisa siyaasadda ka dambeysay sax siyaasadda ka dambeysana waxaa waaye gobolka shabeellada hoose in la qaato oo mataqaanaa beerihii iyo dadkii iyo dunyadii degnaanan la xasuuqo macnaha ma fahmaysaa sax waa macnaha mukhtarow in la xirin xasan sheekhaa ka dambeeya aniga saa ila taha waa sax taas waaba la ogyahay baqarashna uu ku bixiyey wuxuu uga dambeeya haddaan kuu sheegaya inuu xasan sheekh ka dambeeyo xasan sheekh macnaha shabeellada hoose wuxuu raba inuu gobolka banaadir kusoo daro sax sheekh mukhtarowna waa ka hadlay markuu ka hadlana waa la xiray marka macnaha xasan sheekh macnaha yaana looga dhigin nin awliye ah oo mataqaanaa waa la ogyahay gardaradu gale waa la ogyahay waa noo qoran tahay annaga buugay noogu qoran tahay haa shabeellada hoose raba inuu gobolka banaadir kusoo daro mataqaanaa dadkan maylan u dhashana meesha oo ka barakiciyo oo dadkiisu ku abuuro taasna socomayso qof walba dalkeeda iyo dhulkeeda ayadaas ka leh ma fahamtid midda xigto waxaa qalada haddana mukhtarow inuu xirnaado sheekh shariifna banaanka joogo sheekh shariif iyo mukhtarow shalay hal tv kasoo wada muuqdeen macnaha haddii shalay sheekh shariif qori arbiya ku qaatay macnaha sax halo kusoo celi wuu kaa go-ay kusoo celi wiilka hadda hadlaya wuu kaa go-ay hadalkii kusoo celi kusoo celi wuu kaa go-ay hadalka aa dhamaysatide haddaa lifeka ku jirtid kusoo celi mise qof kalaan siiya qof kalaa soo wacooye
fureen waxbaa igu soo furmay I don't know mayga dhinaciisa isaga aan geliye marka waxa waaye dhibaatada waaweynta waxaan silsilad waaye la xirxiro waaye silsilad la xirxiro waaye silsiladaas yeetina reer Mayland le loo xirxiray digli mirfle loo xirxiray dad kale loo xirxiray ma jirto aniga saan u arko digli mirfle loo xirxiray hadday siyaasiyiinteena naga caabin lahaayeenna dee heeraan gaari laheen hadda waa fiican yahay maasha allah waxbaa xoogaa jag isiiri virus miya ma aqaano wuu qayliyey marka siyaasiyiinteeni hadday naga caabin lahaayeen sheekadii hadday aan wado waaye qof kala soo wacay wiilkii wuu ka baxay kan hadda soo wacay kusoo celi haddaa imaqlaysa waa toosiyey maygeen marka maxay ahayd toola dhibaatadana haysat waxa waaye Mayland loo lagu soo duulay waaye Mayland 2 dhinac 3 dhinac 4 dhinac loogu soo duulay wuxuu noqday rootigii 4 meelood looga kala goosanayo noqday aad ugu xumaay taas waaye haddaan haysan lahayn siyaasiyiinteena ay miiska noo garaaci lahaayeen inta hadday sheegay waaye ma aysan nagu dhacdeen marka dhibkana haysta waxay tahay aniga siyaasiyiintii aan hadal ka rabaa xirgahan aad xirxirteen biliis waxaan jeclaan lahaa inaad ka soo jawaabtiin su'aashayda xirgahan aad xirxirteen inaad furfurtaan ha idinku qaadato maxay ahayd tolo bilo ha idinku qaadato sanado sheekada way soo xumaatay waa ujeediin mukhtaar oo xiran xataa korkiisii qof xiran oo maarta qol isaga xiran waa wuxuu awood u leeyahay male hub male maanta hadduu ahaan lahaa nin maarata awood u leh wuu iska caabin lahaa iska dhaafee maskiinka hadda la dilo iska dhaafee waxa meesha jooga dhan uu dhammayn lahaa laakiin waxa waaye awood ayaad u sheegateen hubkii waa ka qaadeen qolaad geliseen aad ku xirteen okay wixii waa samayseen marka haddaanan ilaalo fiican aanan u geynaynin horta waxaan jeclaan lahaa in la soo daayaba maadaama uu maaragtay dad asaga lamid ahoo khaladkiisoo kale ku jira bannaanka joogaan hadday daysma aheenna ilaan idinkaa madaxtinimada haayee inaad macnaha aad adliista aad u geysaan dad gebilkiisa ah see u ilaaliyaan ay u protecto gareeyaan marka waxyaalahan oo kale waa wax aad loogu xumaado waaye laakiin aniga waxaan aan eedaynayaa qof kale ma aha madaxdan hadda waxaan samaysay iyo waxaas ma aha kuweenaan aniga eedaynaya wallaahi number 1 eegaa eedayna number 2 eegaa eedayn number 3 because waxa waaye asaga eegaa la rabay inay mas'uul ka noqdaan ayagaa la rabay inay mas'uul ka noqdaan ninkan ilaalihiis inay iyaga ka hadlaan shir u fadhiistaan haye ninkan anagu naga dhashtay yaa waxaan rabnaa inuu ilaalihiis ay noqdaan ilaalo maaragta maasha allah oo asaga uu ku qanacsan yahay uu ku kalsoon yahay xataa intaas way dhihi waayeen furitaanka iskaba daab intaas xataa hadday dhahaan maanta waxbay ahaan lahayd waxay noqon lahayd markaas in maxay ahayd toole ilaaladiisii ay noqdaan macnaha dad markaas lagu kalsoon yahay cabsina ma jiri lahayd marka waxaa waaye digli mirfow idinkaa dabadiin isfiirinoysaan intaa idinka isfiirinaysiina wax ma hagaagayaan marka ani waxaan dhihi lahay shicibka dadka oo maarata dhibaataysan maanta dal iyo dibadba meeshay joogaan inaan inta gacmaha isqabsano wixii dibadda joogana dacwadeena aan wadano shirar aan samayno wixii gudaha joogayna macnaha inay macnaha waxaan jeclaan lahaa iyagana ay gacmaha isqabsadaan ay hal meel ka soo wada jeestaan ay erayga ay ku hadlaanna uu noqdaa hal mowqif sida dad mitaanoo laysla dhala camal sida qofkaa markuu hal eray dhaho kan kalena uu ka daba dhaho macnaha se isku raaceenoo waxaan ka wadaa macnaha se isku raaceen inay isku raacaan yaa sida ay isku raaceen maaragtay aan rabaa inay maaragtay sida mataanaa maaragtay labada qofoo mataanaa ah oo qalbigooda isku raaca inay isku raacaan taasaan wax ku qabsan karnaa wallaahi hadday madaxdii naga jiifto ee madaxdii waxba noo qabanaynin oo maalinba anaga intaan meedii soo galno su-aal weydiin war intee ku maqantiin intee aadeen xirgahan aad isku xirxirteen oo aan la furi karin intee idinku qaadanaysaa ilaa aad ku furfurtiin waqti bay idinku qaadanay adliista jawaabna soo siiya aan leenahay oo macnaha qof soo hadlaya aanan lahayn idris lay soo galaayo iyo xildhibaanad kale oo maalin hore soo gashay khayr allah siiye intii kaleba maaragtay nyamta ay ku dadaaleen marka wax aad looga xumaado waaye wax aad u dhib badan waaye waa su-aale aan mar walba ani aan isweydiiyo oo idinkana aan idiin soo bandhigay oo caawana ra'yiga inta aan ku kala qaadanayno marka aadaan oga xumahay mukhtaarna ilaahay meeshiisa allah ku xafidaan dhihi lahaa ugaaskaan naga maqanna ilaahay waxaa uga baryayaa asagana inuu ilaahay nabad ku soo celiyo samasama inuu familkiisa ugu soo celiyo asagana cirib meeluu dhigo waa la la'ya ilaa iyo hadda dhimasho iyo geeri ma lagu haayo dhimasho iyo nolol geeri iyo nolol midna laguma haayo ilaa iyo hadda waa maqan yahay ma fahanteen
taasna waxaan weydiinayaa lafta gareen oo ugaaskaasaa maqane bal walaalow haddaad wax ka qaban kartid ka qabo reer uu ka maqan yahay ugaaskaas waa la la'yahay guddoomiyihiina agtaaduu joogaa hadduu hawshii geli lahaa agtaaduu ku xirxiran yahay marka bal insha allah kheyrka allahna waa fujiyaan dhihi lahaa ani wax kaloo dhahayo ma lahan marka maxay ahayd tool walaalayaalow gacmaha ha lays qabsado hala noqdo dad wax macnaha hal rooti wada cuna noqda qof waxaa noqotiin kan kale walaalkiis ka naxaayo laakiin intaa idinka isku maqan tihiin dadkii bannaanka waa idinka faa'iidaysanayaan qof caana idin shubaayo male wallaahi farmaajona weerarkiisuu meesha ka wadaa haddii maxay tole fahat oo soo adeegsan lahaa iyo hadduu khayro soo adeegsan lahaaba nin walba waxa waye dambiishiisa u weyn tooday ka fikirayaan waa aragta hadda maxay ahayd toole xamar dhibaatooyin ka socdaan bandowgaana lagu hoos gabanooyaa bandowgan waxaa la rabaa in dad badan la qaarijiyaa la rabaa dad badanaa la rabaa in la qaarijiyo wallaahi waa inaa wake up la ahaadaa wallaahi muqdisho sidii hore ma aha bandowaa la geliyey laakiin bandowgaasi dadaa ka faa'iidaysanayo argagixisayaalaa ka faa'iidaysanayo oo rabaan dad masaakiina yaa hadday noqon lahaayeen madax hadday noqon lahaayeen maaragta dad maaragta xasaanaad wado haba hooseeyaane inay ku qaarijiyaan rabaan waay marka haddaa wake up aanin ahaanin wax kasta waa dhacayaan marka waa inaa wake up la ahaadaa wake up in la ahaadaa waay oo madaxiina kor uu u taagnaadaa oo lays ilaaliyo oo aanan laysku halaynin wax kasta ka fisho dadkan baarlamaanka fadhiyo wax kasta ka filo waxay rabaanay samaynayaan wallaahi wax kasta ka filo wax ay macnaha ay dhaafayaan male waa dadkii yariisow maskiinkaaseetiyo oo daacadnimada u hadlay sida la yeela aad ogtihiin idinkaba waa ogtihiin waaye dadkaas wax walbo yaa wax walbo ka filo yariiso waa u soo hoggaansan dadkiisi inuu u shaqeeyo yaa wala aakhiro waraa jiro aakhiro maaragtay wallaahi waraa jiro nin walbaba tiisaa haysato aakhiro wallaahi dadku waxay isleeyihin intaan nooshaa wax qabsada aakhiro inay dheertay u malaynayaan laakiin adduunka naftarkiisa aakhira idinku bilaabanayso wallaahi bilaah qaxarka naftarkiisa adduunkuu ku bilaabanaa dadaaba ka fikirayninba ma fikirayaanba kursigaasay macnaha ay u hindhacad yihiin iyo doorasho soo socotay u hindhacad yihiin markaasay waxay rabaan dad masaakiinoo meel lagu xirxirtay iyo dad maxay ahayd toole meelaha iska maraaya iyo in la qaarijiyaa la rabaa eesh faa'iida intuu fahad joogo baarlamaankaas wax hagaagaya male fahadba intuu baarlamaankaas ku sugan yahay qorshe kasta wuu soo fulinaa marka inaa is ilaalisiin wax idin dhaamal reer muqdisho haddaa noqon leedeen iyo haddaa reer digri mirif noqon leedeen ba is ilaaliya idin dhiila ani wallaahi bilaahi xirgaa la xirxira meeshaan xirgo badanaa xirxiran wallaahi xirgo aad u badanaa la xirxiray bandowgaanaana lagu hoos dhuumanaya bandowgaaneeti camal waayo guri mugdi a waayo guri mugdiga markii lagu jiro wax kastaa dhici karo wixii ka dhacaya ma la arkaayo because bandowga saas waay ebel waxa waaye banaankiiba sheekada ahaydba laakiin hadda wixii dhan waa la xirxiray allaha soo celiyo ugaaskoo nabada marka wallaahi mashaakilladaasaa jiraan waxaan sheegna ma naqaano wallaahi mar waa xanaaqnaa mar waa isdejinaa mar waa kacnaa mar su-aala isweydiinaa oo maxaa kutubka qur-aanka loogu dhaartay saf inta loo wada galay waa igu wallaahi waa igu bilaahi maliska dhawayaale maxaa alif facmaalo oo loo meerinaayo miya ani waaba la yaabo madaxdaani ku dhaaro waa igu wallaahi dhe waa igu wallaahi waa igu bilaahi dhe waa igu bilaahi kutub lagu dhaartay ka waran gacanta yublasii waxna mala qabanooyo waxna mala suubinooyo kutubna gacantaa la geliyey marka walaalayaalo waxaan jeclaan lahaa see hoggaan ku samaysanaa hoggaan oo annaga intuuna hormaro yaa oo wax noo qabta see ku samaysan karnaa aniga taasaan la yaabana tan cawad aan usoo fariisto way su-aasha isweydiinoy way oo raba ra'yigeyga inaan kusoo daro see hoggaan ku samaysanaa annaga hawsheena hore inaan usii wadno si aan hawsheenana hore ugu sii wadno ilaan mukhtaarna waa naga afduubeen mogta hoggaamadii kalena waa kuwaanaaye maasha allaahi juuq iyo jaq ma soo leh yaa hadda guddoomiyiisiidoo waa kana baydhowuu ku dhex fadhiyaa ilaa iyo hadda maxaa laga damacsan yahay maxaa la soo wadaa maxaa la rabaa in laga sameeyo ma sheegi kartaa ma la sheegi karo maxaa dhici doono waay we never know wixii dhici doono wallaahi annagoo tii daafeed ku mashquulsan oo inta jaa annaga aan weerar ku hayno brobleenka inta naga saaran yahay haddana mukhtaaraa lasoo galay saas waay siyaasadda laguu sheegaayo taas waay siyaasadda laguu sheegaayo geemkaas waay markii meel inta ay sheeko ka jirto intaa lagugu wareejina hadda mukhtaar mayno hadda beri haddana meel kalaa soo baxayso arag waa la daminaa tii mukhtaar waa damey
haddana too kalaa soo baxayso cuseeb aa soo baxayso saas waay meel kasta farahay gelinayaan because siyaasad waay waxaan siyaasadna meel walba ay wax ka qaniinayaan ma fahanteen waa la yidhi dadkan waa qaylinooyaan sheekadii daafeed hadda maxaa lagu dabooloyaa dadkii aan rabnay in xabsi in la soo saaro maxkamad atii mukhtaar lagu daboolooya waxaan rabnaa annaga dadkii dhibaatada u geystay daafeed yaa oo maxay ahayd toole io najaxo isbaaradii ka hadlayo cajalkiisi lahay ayaan rabnaa in la maxkamadeeyo tii ayadoo diiradda ay noo saaran tahay ayaa xalay waxaa la maleegay mukhtaar arrintiisii because tanaa lagu daboolaa laakiin tan ma daboolmayso annaga waa soo taaganna annagii inta meediyaha ku jirtaba waa soo taaganna taasna too meel noo taalo way too dhammaanaysa ma aha wallaahi iyo dhallinyaradii la dili iyo wixii iyo hawshii annagoo ku jirno jaa intaa lagu soo sheekada intaa loo soo wareejiyey maxaa loo soo wareejiyey mukhtaaraa la weeraray korkiisaa la isku dilay wiil maskiin ahoo wiil yaroo dhallinyaro shabaab oo maskiin ah wallaahi aa ku naf waayey maanta ka waran ilaahay ma laga cabsanaayo war maxaa kursi jaceelka soomaalidu siyaa la yaabanaa ani way ay u kursi jecel yihiin ilaa intaas wax laisku dhamaynayo kursi waaye way ay u kursi jecel yihiinaan la yaabanaa ani maxkamadanba sugaynee dad dhibaato ku soo sameeyey daafeed aan barabno inna loo maxkamadeeye oo cajaladooyinkoodii bannaanka aan soo saarnay brogaraamkaasaanba wadanee maxaana loogu qalloociyey in mukhtaar caawa la weeraro mukhtaar in la weeraro oo ilaaladiisa ilaalo ka mid ah la dilo maxaa dhinacaas sheekada loogu bedelo ma fahmaysiin idinka sheekada waa fahmaysiin aan malaynaa silsilado xiran waay wallaahi maalinba hal meelay sakiinta ku gooynayaan marka silsilada isku xiran waay duman isku xirxiran waay dumanka markay isku xirxiran yihiin mala furfuri karo inaa iska tuurtiday noqonay laakiin iyaga dumankaasee dadkan siyaasadiin waaye dumankaaseeti siyaasadoodana meel xun iyo waxay ka gashay inay dhiig cabaan ma ahan siyaasad ay wax fiican ku samaynayaan inay dhiigi cab noqdaan ay ku samaynayaan maalinba halkii dunoo xiranba sakiinay ku goynoyaan because nafay ay macnaha daday dilooyaan dhiigay daadinoyaan siyaasadooda iyo kursigooda iyagoon dhiig daadinin oo dad dilin ayay samaysan karaan laakiin danta waxay ku qasbaysaa ya in dhiig la daadiyo taasay ku qasbeen si ay iyaga markaas tooda ugu fusho waayo because tooday ka fikirooyaan ayaga tooday ka fikirooyaan nin walba dantiisa u dambiil weeyaan aday kuu taallaa dhullee kaa maqnaadaa iyo waxlee kaa maqnaadaaba iyo wax lay rabtaaba haye ma brogaraamkii hadda waxaan u soo fadhiisanayna labadan beri aan lahayn maxkamaana loo soo saaraa dadkii dhibaatada daafeed u geystay fiir sheekada meeshay u qalloociyeen idiin sheegaan dadka baarlamaanka jooga sheekada jaa meeshay kuugu qalloociyeen maarata muraayadda meeshay kuugu iftiimiyeen ya muraayaday wataan qoraxday ku aadinayaan hadda meeshay rabaan ay u iftiiminayaan because iyagaa xasanaadkii haayo ilaahayna kama baqaayaan cudur xunna waa jiraa ka waran soomaaliya hadda iyada naftarkeeda iska masaakiin oo waxba haysanin cudurka intaasoo qofooda u dilooyaa la dhooyaa waddamadaanoo lacagta intay ka badato xataa wallaahi lacag la isi siinoyo oo qof walbaba kii rij aba macnaha dadka lacag siinoyo ku caawinoyo soomaaliya waa kaas waa aragteen haye dadkii waa dhibaataysan yihiin marka ma hawshii loo dhiibay kuraastii wixii loogu dhiibay oo macnaha ahaa responsibilitkii iyo shicibkaas masaakiinta dhibaataysan may ka fikirayaan mise waxay maleegayaan 24 sac siday dil u qorshayn lahaayeen ani taasaan ula yaabana wallaahi taasaan la yaabana marka dhul ninkiisa iskale digli mirfo dhulkiina dhabdhaha wallaahi haddaad sharci wax ku haysiin ani waxaa idin dhihi lahay hala dagaalamo dagaalaa hurina iyo bilaashaa la ii dhahaa sharci haddaa wax ku heli weysiin sharci ma jiro madaxdiinnii waa idinka jiiftaa ya qof soo istaagooya male kulligood waxaa u malaysaa in cirbado la wada duray qof soo hadlooya male ya qof soo hadlooya male aanan laba qof ka ahayn ani waxaan dhihi lahaa xooggiinna iyo muruqiinna iyo hubkiinna la soo baxa wallaahi ani taasaan dhihi lahaa meel qof walba meeshuu ka gaaro hawsha ha laga wado ani saasaan dhihi lahaa wallaahi mukhtaarna soo deeya idinkaa meesha joogtiin hubka idinkaa wadiin idinkaa hubka lidiin dhiiba jaanisa haysatiin ka faa'iidaysta mukhtaarna soo daysta dhulkiinana xoraysta dhallinyaradii beri u soo bixi lahayd waddankii idinkaa ani wallaahi saasaa idin dhihi lahaa aniga ra'yigaasaa idin sii lahaa ama dadaa isku diroysaa iyo ama dagaalaa hurinaa iyo sheekada markay manee imaato waa ku qasbannahay inaan maaragta dadka aan ku baraarujiyo isbishira dhallinyarada hubka noo wado inaan ku baraarujiyo iyo kuwa kale oo hadda soo kacaayo inaan ku baraarujiyo danta igu qasbeen
wallahi dagaal ma fiicno laakiin haddii adi gurigaaga lagugu imaado waa dagaalame dhulkaagaa la rabaa in la boobo madaxweynahaagaa la xiro waa ujeedaa oo haddana korkiisa laysku dagaaloyaa ka waran qol yariisa oo xiran oo ku jira korkiisa laysku hurgufooyaa marka dhibaatada aaday u weyn tahay dhibaato intaan ka badan maxaa sugaysiin waa intaan ka badan maxaa la sugaa horta madaxa sugina madax horta ma jirto ha sugina madax idinma soo socoto wallaahi xirgaan xirxiran ayagaaba ka sila meelay ka furaan qori lee fujinaayo xirgaan xirxiran qori lee fujinaayo wax kaloo fujinaayo male qoryihiina qaata idin dhiilaa ani wallaahi qof walba meeshuu ka soo gaaro qacdaha gidiye madaxweynihiinana soo furta ha laysku baaba'o wallaahi 91 aa sheegtee ilaahayow 500 ha lagu noqdo gadaal ha loo noqdo wax ka roon male wallaahi because maalin ilaahay keena tiila ma lagu jiraayo yaa waay dadka maanta la canaadsanooyo madaxa oo lugta laga saarooyo digli mirif waay dadka kale waa isxoreeyeen madaxdoodii waa isxoreeyeen kuwana iyagoo shiraayo ma arkaysid aaw maba arkaysid ba iyagoo shiraayaanbu adi ma artay indhama saarti waa cabsanaynaa ayay dheheen hadday cabsanayaan at least fasaxa soo qaataan warqad ha loo soo qoro at least dadkeena u hadlaynaayo been xataa soo dhahaan waxlee hana tusiyaan dadkeena dhibaataysana u hadlaynaa le at least ha soo dhahaan taas xataa ma haya aqli xumadooda wallaahi intay soo fadhiistaan iyo shir soo fadhiistaan waxba yaa noo qabanin xataa giirkooda le haddii la arki lahay ka waran shub daafeedaa dagaal ka dhacay nyam muqhtaaraa la weeraray nyam maxaa soo socda marka war qoryihiina qaata iska celiya ani wax kaloo dhahayo male xoog annagana dibaddaa joognaa waa idin soo caawinayna wax kaloo dhahay male ani daraad lifekeygana waa ka dhahay wallaahi bilahi gacmaha isqabsada dabadiina ha isfiirnina qabiilada aa sheegaysiinna joojiya ase digli mirfu istaaga ase digli mirfaa laydiin haystaa dhulkiina ilaa iyo shabeellada hoose al rabaa in la qaato whatever ay yihiinba al rabaa in la qaato fekera marka isku noqda idinka maxaa idinku kalifay inaad hebelow kan waaye iyo hebelow kanow ahaa iyo laba isku dagaashiya dinsoor laba la isku qabsaday buur laba la isku qabsaday bal habaarkay habaariyin fiiri war istajiya oo cuudu bileysta oo quraan akhrista ya waa kaasaa hadda ugaasadii daafeed waa hadleen maasha allah kuwii bay dhawo waa la la'yaa iyagana dhubay dheheen nyam waay ayagana inay soo hadlaan waay inay ka hadlaan waay arrintan dhacayso tii daafeedna inay ka hadlaan tii mukhtaarna inay ka hadlaan waay at least dhaqdhaqaaqa sameeyaan see waay meeshaan maalin walba tiile ma lagu jiraayo tiile maa lahaynaa maanta dhan acuudu billaahi min ashaytaan rajiim si kasta haddaan wax ugu sheegno si kasta haddaan aan tv-ga usoo fariisano annaga yaaba nala yiri waxaa isku diroosiin aamus waay markaa nii la gambiyey aamus hee waay haliidin gambiyey waa aamus haliidin gambiyey ani marka waxaan dhihi lahay qoryihiina qaata mukhtaar roobowna soo daysta yaa dhulalkiinana borotagta garaysta wax kaloo aan idiin haya haba yaraatee ma jirto waayo nimaan shanta kaa reebinaa la sharci kaamareebo meeshaan sharci ma jiro madaxdaadiina waa kaa huruday madaxiina fara kuma haysid tan hadda idiin soo taagan waxaa waaye inaa idinka isdifaaca ninkii dhulkaaga kuugu imaado taaka allah ka dhigay inaa isdifaacda waa ku qasbanta waa inaa isdifaacdaa isdifaaca mar walba waa inaa isdifaacdiin wallaahi borobaleenaa daraa dhaca shib labadan beri xoogaa jawigiyaa qabooba jaa mukhtaaraa la weeraray intaa la galabano ka waran intaaba sheekada laga bilaabo mukhtaar roob la weerarabo hala dilo maxaa ka faa'iidaysiin haddaad dishiin maxaa ka istafiidaysiin antaasaan la yaabana mukhtaar roob boqolaa joogtee mukhtaar roob haddaad dishiin boqol mukhtaar roobaa joogto markaas leeba la soo kacaabo markaas leeba sheekada qaraaroobeysaaba maxaa laga istafiidaa marka walaalayaalow war ii dhammaantiis ani waxaan dhihi lahay digli mirfow mar kastana waa idin dhahaa gacmaha isqabsada baraarujinaa idiin haynaa kaalmo waa idiin haynaa waa idin soo kaalmaynaynaa dacwo waa idiin haynaa inta dacwo waa soo gudbinaynaa ya wax walbaba diyaara una beerihiina fashta waxaa uga baahan tihiinba male war goosta dhulkiina goosta dhulkiinaba goosta waxaan la dagaalamaynaa cadowgana soo weeraray oo rab dhulka inay naga qaataanaan la dagaalamaynaa oo isku daya mukhtaar robow inay dilaanaan la dagaalamaynaa kaasaan la dagaalamaynaa goosta dhulkiina xuduudiina goosta somalilandba waa goosatay maasha allah idinkana goosta wallaahi ani saasaa idin dhihi lahaa calankaas xunaa la idiin gooye goosta dhulkiina beeraha ku abuuraysa ninkay u daran tahay hala arkaba qofkay ugu futuxun marka iiga goosta dhulkiina idin dhihi lahay ani
goosta dhulkiina xuduudadiina goosta qoryihiina qaata wallaahi si kale male 91 aan sheegtay ka daran ha lagu noqdo waryaa muslimiin soonaa soo socda inta laisdejin lahay maalinba dagaal maalinba dhiib maalinba baarlamaanka wax laga soo alifaa maalinba fahdaa wax soo qorshaynayo dagaal uu soo qorshaynaa marba meelaa laga qabanaa marba meelaa laga celinaa ninkaas intuu baarlamaanka fadhiyana waxba ma hagaagayo dhub allaha siiye fahd yaasiin dhub allaha siiye allah naga qabto ilaahay oo ka baryo allah naga qabto habaarakaas kaas intuu meesha fadhiyo wax ma hagaagayaan wax ninka wax qasay asaga waay oo wax xulcinay asaga waay intuu ninkaas meesha fadhiyo wax hagaagaya male wallaahi inta asaga la adeegsanayo wax hagaagaya male waayo waxa waaye meeshan siyaasad waay dhinacii daafeedaa laga hadlayay borobaleenka meeshuu ka taagnaay saan yeel ima yeelaay saas maa tiri haa mukhtaaraan bu weeraraa waay ma fahmoosin idig daraadlay too aheed oo lafta gareen iyo khayre ay isla hadleen khayr alla ma siiye asaga dhub allaha siiye balaayaa madaxa turumbada leh daraadlay isla hadleen asaga iyo lafta gareen ma yeelays iidaa anaa ku qoran shabeellada hoose anaa ku shaqale iyo kuma lihid anaa ku shaqale miya ahaa laba beriyo uu sugaye mukhtaaruu weerar ma ujeedo meesha laiska galooyo ma fahansantihiin mise ani keligay la ila tahay sheekaas ma ila fahansantihiin ra'yigaas ani qabaaye meeshuu maaragtay fahd yaasiin oo uga soo diraayo khayre meeshaasuu ku xanaaqsan yahay ii dhaaf maxay ahayd toole shabeellada hoose anaa ku shaqale iyo kuma shaqalihid ilaan balaayadaaneta soo duusho daafeed imaatay ayuu madax ka yahay ninkan isagaa maamuloy isagaa kulli fidna cinda geel khayro waay hawsha dhan asaa wada waa la ogyahay ma ii dhaafin miya ahaa anaa aqaan shaqadaada waay mukhtaaruu weerar ku qaaday war ma ila fahanteen mise ani keligay waay sheekadii oo macnaha anaa ku tusinayo waay intuu sheekadu ku wareejiyey qorigii intuu wareejiyey yaa sheekadaan ha degtee waay ma degayso tii daafeedna waa u taagannahay oo waxaan rabnaa ninkii dhibaatada keenay oo ka dambeeyey oo najax ahaa in fara kulul lagu qabto qabtaan rabnaa ninkaas inna loo xiraan rabnaa cajaladiisaan haynaa waa soo daynay hana laga qabta ninkaas xasanaadkana ha laga qaado asagoo isbaarada u horseedaayo daafeed waa soo gelina annaga waa la fiirsada fideogiis ninkaas dacwaan ka nahay iyo xulufadu asaga wataba dacwaan ka nahay taasna lama ilowsano waa usoo fariisanaynaa waana ka hadlaynaa mukhtaarna tiisi ilaaha ahay xalaba waa kaasaa maskiinkaanetiya tiisi gashay asaa meesha ku dhintay allah u naxariistee oo badbaadiyey naftiisa ilaahay waxaa ugu baryay wehelada uu ka dhintana inuu ilaahay qalbigooda burcad u mariyo janatulfirdowsana inuu ilaahay ka waraabiyo samir iyo iimaanna allah ka siiyo maskiinkaas marka walaalayaalow sheekada waa ujeedaa silsiladan waa dheer tahay yaa mar walba annaga waa soo galnaa dadaa waxay soo qorayaan wax qabadaa la rabaa hadal lama rabo dadka wax qaban lahay annaga intaa uga gudbinoynaa annaga waxaan ku filanahay dibadaaseet waxaan nooga baahantihiin iyo inaan maxay ahayd hoole aan soo dacwoono oon dacwooyinka un-ka meelahaas aan ka soo dacwoono oo dacwadiina aan ku soo qaadno iyo wixii dabalahoo intaaseeta sii raaco laakiin hawsha waxaa la rabaa dhalinyarada ininka inaa qabatiin isbishal dhallinyaradaneeta marka walaalayaalo waxa waaye mataqaanaa wax sheegaa la yiri wax la sheegayaa la yiri wax la shuhuudiyaa ka fiicane bal waxna tusiya ee ka istaaga meesha ee hawsha qabta ani saasaa idin dhihi lahay firdowsa bax adiga hawsha kuumaba hayo adiga kuumaba hayo mac salaama waa ku balogareey shaqo kuma lihid waaba ku balogareeyo mac salaama goorma wax soo qorey meeshaan dadkayga wax ugu sheegoyaa shaqo kuma lihid marka waxa waa ninkii waxu soo qoran waa balogareyna waa igu taqaaniina umalayna labada xabo ii fadhisan wax u sheega ani waaba balogareeyo faraha ka qaad marka waxa waaye walaalayaalow reer daafeed isbaaradii diideen waan u taageen ilaa hadda kama aysan seexanin maasha allah ugaaskaaseetina allah soo aruursho nabad allah ku soo aruursho biidni illaahi kariim taleefanadu waa furan yihiin haddaa ra'yi nagu darsanaysiin maasha allah ugaaskana allah soo aruuriyo biidni illaahi kariim ilaahay idinkiisa annagana wixii tabarteenna ah waan dadaalaynaa wixii ra'yi ahna waa ku kabeynaa su-aashii aan weydiiyey lafta gareenna jawaabteedan ka sugaa maxaa ka damacsan tahay guddoomiyaheeni sidow agtaaduu joogaaye
wiigay kusii socotaaye maxaad ka damacsan tahay maxaa hee ka damacsan tahay see wax u rabtaa inaad u samaysid taasna inaan ogaanaan rabi lahayn waayo guddoomiyaha dadkiisii shicibkiisii waa u baahan yihiin shicibkiisii waa u baahan yihiin haddaadan brograam kale u haynin guddoomiyaha ku soo celi gobolkiisii lafta gareeno haddaa imaqloys haddaa brograam kale u haysidna sida ugu dhaqsaha badan inaad la soo baxdidaa fiican waayo guddoomiyihii inuu iska maqnaado waa laga fiican yahay gobolkiisii waa u baahan yihin dadkiisii waa u baahan shicibkii doortay ayaa u baahan oo u ooynaayo ma fahantay waa ay tabeen waa hee ay tabeen marka biliis ambiliis dadkii xukuumaddii oo macnaha dhibaatadii ka dhacday daafeedna ayagana waxaan rabnaa maxkamad inna loo soo saaro ayagana waxaan rabnaa in dacwadeeniina loogu fuliyo oo dacwadii lagu qaado taasna weli waa u taaganoo ma ka sabrayna annaga ninka isbaarada usoo horseeday xulufadii asagoo gadaal uu ka waday oo aan hayna cajaladiisii hadalladiisii waxaan rabnaa inaad noo soo saartid maxkamad aan rabnaa biidni illaahi kariim marka waxaa idin leeyahay dhallinyaroy hala dadaalo wax kaloo dhahay mala dhallinyaroy dadaala dhallinyaroy hee dadaala inay isfahmaanna muhiim waaye dhallinyaroy dadaala marka insha allah biidni illaahi kariim intaasaa idin dhihi lahaa kolley ani meeshan hadda waxaan usoo fadhiistay saan ku helnaa hoggaan saxsan because hoggaan saxsan ma haysano hoggaan waxaan haysanaa oo wax alla wixii dhacayaba dhagaha zamka ah oo dhagool ebo marka see ku heli karnaa hoggaan saxsan see annaga wixiina laga sameeyey na loogu qaban karaa haddaa annaga hoggaan saxsan aanan haysanin annaga aan is abaabulno dibadeena inta jooga aan shirar samaysano kuwii xamar jooga gruub ha isku xirmaan ayagana maxay ahayd toola ha wada tashtaan annaga marka xooggeenna aan maalina saasay noqonayn wallahi haddii xuduud kala xiran kara xataa hala xirtaan dhihi lahaani wax kale meeshaan yaala male xuduudadeena haddaan xiran karna xataa aan xirano maxaaba yaala meesha ninkii shantaada waxaa li ninkii sharciga kaa reeb way shantaada isaga celinay wallaahi marka shanta aan isaga celino hala dagaalamo halaga kaco meesha dagaala abaabulisaa baa lii dhahay hala kaco wallaahi saacama markay sheekada manay noqoto in la iska celiyo waay wixii idiin imaada iska qabta haddaa wiilka soo galo wuu dhahay wuxuu yidhi xaliima hadal looma baano waxaa la rabaa yuu yidhi mukhtaarle inaan la sugin oo maxay ahayd toole annaga hawsheenna aan wadano waa imaqlaayaan dhallinyaradoo dhan hadday imaqlaayaan hawshiina wataan dhihi lahaa ani marka waa kaasaa walaalayaalow biidni illaahi kariim leydaan soo galay kolay saanaan usoo taaganaa annaga baraarujintana waa ku jirnaa caawintana waa ku jirnaa labada dhinacbo biidni illaahi kariim intaan nool nahay insha allah waa kaasaa insha allah kolley wax soo wacooye male anigana qodobadaydu waan dhiibtay hoggaankaasaa u heli lahaa haddii hoggaan la waayana annaga aan is-hoggaamino haddaa hoggaan saxa weynana annaga aan is-hoggaamino annaga aan noqono dad is-hoggaamiyo oo hawshooda hore u sii wato shicibaa wax dhiso wallaahi inta annaga hadda xasanaadka noogu fadhiyo waa badan yihiin dad cilmi lahaa ku jiro yaa dad waxbartaa ku jiro dad xikmad lahaa ku jiro aawey halkoo xataa qaraf ma kuusoo siinoyo halkoo xataa maaragtay qaraf ma kuusoo siinoyo aanan ka ahayn laba xildhibaan oo soo hadashay inta kale waaba la la'yaaba meelay ka baxeen adisheeg marka walaalayaalow insha allah kheyraa idiin dhaafay inaan kusii dheeraad maraba waqti dambe waaye biidni illaahi kariim ha lays baraarujiyo gacmaha ha lays qabsado qabiilka laysku takoorayna hala joojiyo qabiil ma rabna annaga gacmaha inaan isqabsano asadigili mirif oo wax aan qabanno oo ahayn mayno isdhiiba hala idin wada gumaysto wixii dhul la qaadanayna hala qaata saasay sheekadu ku dhammaaneen wallaahi saasay noqoneen haddaa idinka intaa isku jeediin wax ma qabsamaayaan waxaa la rabaa laakiin inaa idinka hal far noqotiin hal far ahaada idinkaa isku maqnaanina idinkaa isu fiirfiirnina because cadowayaashiina waa badayin intaa laydinka soo weeraray haddiinaan taas samayn karina annagana hana daalinina isdhiiba dhulkana hala qaato sheegtee idinka naftarkiina haniila qaato sida kuunta haniila addoonsado wallahi saasaan dhihi lahaa haddaa idinka shanta isaga celinaynin oo xoog la soo bixaynin oo mukhtaarna intaad ugu tagtiin baarlamaanka aad soo furinaynin yaa fiir hadda dhallinyarada dhan waa la watay daraa hadda waxaa la yidhi maxay ahayd tolo diinsoora laga qaqabanaya dhalinyaro dhinacaasaa looga yimid aa layidhi wiilalaa laga qaqabanaya haye wax la dhegaysan kara miyaa waxaas dhalinyaro yaryalaa la qabanooya oo la shabaabeynoyo ka waran kuwaagii kara askaraa laga dhigay saana u hadlaynaa wayna dhegaysanooyaan
dhub waay iyaga xataa hool xataa wax yaro jaanis xataa maaragta iisha dhaqdhaqaaq yar xataa ma samaynooyaan haye marka I don't know wallahi si wax u jiraan ma naqaanee xirgahan isku xirxirmay ya isku xirxirmay oo kuwii madaxda ay isku xirxireen oo iyagana ay furfuri la'yihiin ya annagana aan la yaabanahay meeshaan ka furi lahayn ilaa annaga meelaan ka furno aa la rabaa meesha aan ka furi lahayn marka waxay noqonaysaa inaan anaga jaaliye dibadaha inta isugu imaano oon shirnaan fariisano maxaan qabannaa inkastoo hadda coronaviruskan imaado adliista xataa inaan taleefanada iskugu imaano gruub jaaliyadaha inta isku xirano see wax u qabannaa intee ka bilownaa xirgahan isku xirxirmayo madaxdii kala furfurila annaga dhinacaan ka bilownaa xataa aan dhahno waa qaban karnaa haddaan isku tagna annaga dibadda oo ra'yi la imaano oo markaas dadkii joogay waddankii oo dhibaataysnay aan ra'yigii u geyno cudurkan xunoo socdana ilaahay waxaan ka baryey inuu ilaahay iyagana ka qabto oo dhinac ka marsiyaan ilaahay oga barye marka walaalayaalo waa kaasaa wax aan sheega ma leh ilaahay khayrka allahna waafajiyo intaasaa u soo galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu